waxaana hadda kusoo biiray shirkadani One Life waxaana maanta shirkadani ku jira muddo ka badan 3 sano iyo bar ku dhawaad waxyaabihii runtii aan ka bartay waxay tahay waa wax aan la soo koobi karin ha noqoto dhinac aqooneed dhinac dhaqaale iyo dhinac maaragtay qofka shakhsiyanba inuu aqoontiisa kor u qaado maantana waxay ii suurgelisay shirkadan in ka badan 30,000 oo qof inaan isla shaqeyno meelo kala duwan caalamka jooga waadna dareemi kartaa qof ka mida bulshada marka uu ku biiro company international ah oo aad ka baran karto aqoon markaas ku siinaya inaad ka faa'iideysato dhinac dhaqaale fursad badan runtii wadamo badan oo aan ku fikiri jirin ayaan kaga tagay caalamka ee ka mid yihiin wadamada sida China iyo Australia New Zealand waxyaabihii halkaas aan u tagana waxay ahayd Malaysia ka mid tahay tababar ee shirkadani noogu qabanaysa wadamo kala duwan qaarkoodna anaga aan ku qabanaynin marka walaalayaal waxyaabaha aad ka filanaysaan shirkadani waxay tahay shirkadani waa shirkad digitalka ku shaqeysa kana shaqeynaysa caalamka wadamo badan waxyaabaha aad ka helaysaan waxaa ka mid ah horta inaad dhaqaalihii fahamto sida uu shaqeeyo lacagaha adduunka aad isticmaalo shirkadan waxaa muhiim ah waxaa loo abuuray jirta in lagu dabo waa shirkad yar oo 4 sano ka hor bilaabatay laakiin maanta waxay ka shaqeynaysaa 196 wadan ayay joogtaa shirkadani waxaana member ka noqotay oo akaanadooda hadda la approve gareeyay in ka badan 3 milyan iyo bar isku darna maanta dadkaas waxay haystaan akaano badan 40 milyan oo akaan oo meelo kala duwan caalamka ah oo qaarad kasta ku jirto waxa kale oo la furay qaybo kala duwan shirkadani oo maanta bulshada aad ay runtii ula dhaceen kaliya waxa noo dhimo waxay tahay in 100% systemkani shaqadiisa ay si tam ah ay u bilaabato marka walaalayaal shirkadani magaceedu waxa la yiraahdaa One Life Network Associate waxaana laga aasaasay wadankani Bulgaria gabadha sameysay Dr. Ruja Ignatova weeyaan waana qof runtii aqoon badan u leh dhinaca dhaqaalaha waxaynu ku fikirtay maadaama ay jiraan dad badan ay jooga qaarado kala duwan sida Africa iyo China iyo maxaa la yiraahdaa wadamada Latin America in loo furo fursad ay ku sameysan karaan wax loo yaqaan ku kala maanta haddaad Soomaaliya shirkadani fursad waxay ku siinaysaa danka gudihiisa meel kasta caalamka iyo inaad lacagihii isugu diri kartaan systemkana Soomaalida aad bay u taqaanaa waa qaabka loo yaqaan telefoonka lacagaha la isugu diro oo maanta wadanka gudihiisa ka shaqeynaya sida aad la socotaan marka waxaa ka mid ah shirkadani internetka maanta wuxuu noo fududeeyay in aan fariimaha isugu dirno meel kasta caalamka hadda aaladan aan ku wada xir waa internet weeyaan meelo kala duwan baad joogtaan hadda caalamka dhammaantiin fursadana waxay inoo siinaysaa shirkadani in aan kaga faa'iideysano in sida ay isugu xirto internetku isugu xiro caalamka oo dhan in shirkadani isugu xirto dhammaanteen haddaan isku dalgadanayno tusaale qaadanaynaa shirkadaha oo lagu soo qaadan karo example Uberka maanta waa shirkad ka shaqeysa taksiyada haddii gurigaaga jooga ama meel kale jooga wadan kale ayaa waxa ku suuragal ah inaad qof jooga Europe adigoo jooga Afrika aad taxi uga dalban karto Europe gudaheeda xaafadii uu joogay lacagtii marka waxay ka goosanayaan qofkii jooga Afrika wadanka aad qofkiina waxa laga qaadayaa Europe maxaa fududeeyay systemkaas technology loo yaqaan appka ee Uberka uu ku shaqeeyo lacagtina waxa laga goostay qof jooga qaaradda Afrika maxaa fududeeyay barnaamijkaas internet ayaa sahlay marka shirkadan waxay rabtaa waxay tahay adiga iyo jooga meel kasta caalamka haddaad rabto qof familkaaga ka mid ah inaad lacag $5 ama $10 aad u dirto uu gaari ku raaco isla markaas uu kula soo xiriiro daqiiqad gudaheeda isla markii aad u diri kartaa asagoo gaariga wali saaran si lacagtu iskaga bixiyo transport uu ku raacayo marka waa technology isku xiraya bulshada meel kasta joogto maanta waxaad la socotaan internetka ama technology-ga lagu wada xiriiro wax badan buu horumar gaaray laakiin waxaan horumar badan laga gaarin waxay tahay barnaamijkan ku saabsan loo yaqaano lacagaha maanta waxay leeyihiin limitkaasina wuxuu yahay haddaad rabto maanta inaad qof lacag u dirto waa inaad xawaalad tagto ama bangi tagto waa system runtii dheer oo aan maaragtay fududeyn in laga faa'iideysto marka tan waxay keenaysaa sida aan hadda uga hadlaynay internetka oo kale blockchain-ka internetkii oo waxa weeyaan telefoonka aad ku haysato marka lacagta hadda internetka fariintaada aad ku diri karto daqiiqad gudaheeda meel kasta anta blockchain-ku wuxuu ku siinayaa sida si la mid ah inaad lacagtaada meel kasta aad ku diri karto una madax bannaan tahay wax laga qaadanaynin xilliyadii hore telefoonada la isticmaali jiray waxaa la soo aad buu qaali u ahaa maanta waxaa lagu wada xiriiraa WhatsApp-ka waxaa lagu wada xiriiraa Viber-ka waxaa fududeeyay internet-ka dadku marka su'aalo badan bay ka qabeen barnaamijkaas laakiin maanta waxaa meesha ka baxday
shakigii ku jiray dhinaca internetka laga qabay sababtoo ah 9kii markuu soo baxay dad badan baa waxay ka aaminsanayeen fikir qaldan oo u arkay in privatekii dadka ama privacygooda uu meesha ka bixi doono telefonadan lagu wada hadlaya dad baa waxay aaminsanayeen in codka la iska dhegeysan doono dadka macnaha privatekoodii aysan mar dambe meeshaas ay ka bixi doonto laakiin maanta waxaa keentay aqoon la'aanta keentay dadku ma aysan fiirinaynin marka walaalayaal dadku waxaa ka maqnayd in ay ka fekeraan fursadda weyn ee ahayd maanta in laga faa'iido dhinaca internetka marka blockchain ku dhiisa maanta dad badan baa ka aaminsan in uu yahay wax aanan waxba soo kordhinin taana waxa keenaysa aqoontii baa ku yar marka shirkaduhu marba ka dambaysa shirkado badan oo waxaa soo baxa caalami ah meel kasta caalamka jooga fududeynaya servicekii dadka inay meel walba ka helaan maanta waxaa jira shirkado kala duwan sida halkan ka aragtaan company-gan waxaa loo yaqaanaa Bitcoin waxaa kaloo jira shirkado la yiraahdo Ripple dhammaantood waxay soo baxeen 9 sano muddo laga joogo maanta waxay ka shaqeynayaan caalamka meelo kala duwan kaliya shirkadahaas waxay sameeyaan lacagaha ayaa la iskugu sarrifaa la iskugu gudbiyaa dadka isticmaalana waa dad aqoon u leh technology-ga ama experience badan u leh ma aha lacag qof walba isticmaali karo marka كمبنياشاس maanta shilinkooda qaarkood waa 3900 xilliga soo baxaysay shirkadii ugu negative ka badnayd ama ugu cadaawada badnayd Bitcoin ayay ahayd maanta dadka oo dhan ayaa ku raadinay lacagtooda maanta company-gan ka hadlayna lacagtiisa waxa la yiraahdaa OneCoin company-gan wuxuu sameeyaa wax loo yaqaan cryptocurrency-ga lacagahan wuxuu sameeyaa digital-ka ah company-gan wuxuu ku fududeynayaa marka inaad lacagtaadii dollarka ahayd ama lacagta doontaba ha noqoto caalamka aad haysato inaad ku bedelato shirkadda lacagteeda coin-ka sidaad EVC-ga ama wadamada mobile money-ga laga isticmaalo aad uga sarrifataan kadibna aad lacagtii dadkaaga aad u diran karto adigoona wax interest ama bangi commission aan laga qaadaynin faa'iidada uu leeyahay waa taas weeyaan aniga 3 sano aan ku soo jiray waxaan ku soo ogaa shirkaddan iyadoo yar dad yar ku jiraan 700,000 oo qof marka walaalayaal shirkaddan waxaa ku jirta xilligan soo galay 700,000 oo qof member ah maanta waxaa ku jirta 3 milyan iyo bar in ka badan ayaa ku jirta oo qaarado kala duwan ah kalsoonidii laga qabay waqtigaas maanta ayay ka sii sareysaa sababtoo ah more aad ku sii jirto ama in badan aad shirkadda ku sii jirto wax badan baa kaaga baxaya sidaad halkan ka aragtaan waxaa jirta wax loo yaqaano inaad lacagtaada ku diri karto meel kasta caalamka lacagtii inaad account-kaaga ay kugu jirto inay tahay lacag safe ah oo laga xadi karin security-geedu aad u adag yahay qofkii lacag lagala baxo isla markiiba shirkadda ay awood u leedahay inay ogaato halka lacagta ka qaldan tahay company-gan wuxuu ku shaqeynayaa qaabkaas technology-ga gabadha aastay shirkaddani waxaa la yiraahdaa Dr. Ruja Ignatov waxay kasoo jeedaa Jarmalka waa citizen German weeyaan asalkeedu waa Bulgaria wadanka Sofia ay maaragtay ay kasoo jeedaa waa gabar ku baratay aqoonta dhinaca waxbarashada jaamacad ku taal Ingiriiska Oxford University ay waxay ku soo baratay dhinaca sharciga waxayna ka haysataa PhD ayay ka haysataa dhinacaas waa qof dhinaca dhaqaalaha ku takhasusay maanta fikirkani ay 3 milyan iyo barka qof lacag galiyeen meelo kala duwan caalamka jooga waa gabadha keentay maanta iyadoo da'deedu intaas aad u yar tahay 40 sano ayay waxay ku guuleysatay in maanta dhaqaalaheedu uu billions dhaafo ayna soo saarto shirkad dhaqaalaheeda lagu qiyaasay inuu gaaro multi-trillion company oo caalamka oo dhan ka shaqeyn doona systemkay keentana runtii aad ay ula dhaceen qof kastoo caqli leh uu garan karaa company kastana wuxuu u baahan yahay marka la aasaasayo 1% inuu kasoo bilowdo maanta marka 4 sano ka hor meeshuu shirkaddani joogtay maanta ma joogto maanta dad badan bay shirkaddani noloshooda wax ka bedeshay dhinaca dhaqaale iyo dhinaca aqooneed dad badan oo gaari doona inta la qiyaasayo 100,000 oo qof baa waxaa la rajeynayaa inay financially ka noqon doonaan independent ama dhaqaale fiican kaga soo bixi doono technology-ga ayaana taas fududeynaysa oo bulshadu maanta waxa weeye adduunka oo dhan wuxuu noqday technology company-gan wuxuu sameeyaa waxyaabaha loo yaqaan centralized lacagtiisa waa lacag ay shirkaddu maamusho shirkaddani One Life waxayna awood u leedahay shirkadda in ay soo saarto daqiiqadiiba lacag gaaraysa 50,000 oo shilin lacagta shirkaddani samaysay waxay ka badan tahay 120 bilyan oo lacagta company-gan loo yaqaano OneCoin ayay samaysay waxaana awood kuu siinaysaa meel kasta oo caalamka aad ka joogto inaad lacagta ku diri karto daqiiqad gudaheeda meel kasta ayay ku siinaysaa fursad xinkaasi ah waxaadna ka diraysaa telefoonkaaga kaba soo qaad haddii maanta qof jooga China uu soo geliyo alaab uu iibinayo aad markiiba aragta alaabtii waxay ku siinaysaa shirkaddani fursad daqiiqad gudaheeda aad uga gadan karto
marka waxay fududeynaysaa trade wax loo yaqaano in wax lagu kala gato laakiin company wuxuu u baahan yahay inuu central bankigi iyo kalsoonidii bulshada iyo tii shirkadeedba inuu dhiso maantana waxaan oran karnaa 90% barnaamijkaas waa hirgalay waxaa dhiman 10% taasna waxaa lagu heli karaa waa in shirkadaha la tuso inay jiraan dad gaaraya billions people oo fursadda shirkadani ka faa'iideysanaya ha noqoto kuwii lacagta ku darsaday oo dhaqaale ahaan halkaas uga soo baxo sababtoo maanta waxaad xisaabta ku dartaan intee qof oo Soomaaliyeed baa shirkadan lacag ku darsatay tira ahaan waxaan u haynaa dad gaaraya 40,000 oo qof oo Soomaali ah ee kala jooga qaaradaha Yurub iyo Mareykan iyo Soomaaliya intaba oo shirkadani ku haysta lacag ka badan 100,000 10,000 oo ilaa qaarkood ay haystaan dad badan maaha dad yar baa haysta malaayiin coin taasina waxay keenaysaa in ay soo baxdo bulsho gaaraysa 20,000 oo qof oo dhaqaale ahaan isku filan sababtay ku helayaan lacagta intaas leeg waxay tahay shilinka maanta aad ku qaadato wax ka yar $2 ama €2 oo bari markuu ku noqdo halkii shilin 29 euro iyo 95 taas waxay keenaysaa bulsho dhaqaale fiican haysata inay meeshaas ka soo baxdo waa dadka hadda soo galay shirkadda xilliga hadda hadlayno iyo dadkii hore u soo galay ayaa ka faa'iideysanaya shirkadda marka ay suuqa timaado waxaa dhacaysa marka in shilinkii ugu yaraan meesha uu joogo qiimihiis lagu kala sarifto aadan ku heli doonin qiimaha aad maanta ku helayso tusaale ahaan aniga markaan soo galay shirkaddan shilinka waxaan ku helay cents baan ku gatay maantana shilimaadka intaas waa ka badan yahay qiimihiisa xilligan soo galay halkii shilin wuxuu ahaa €4 iyo 45 maantana halkii shilin wuxuu marayaa €29 iyo 95 marka dadka raba inay hadda soo galaan waxay ku helayaan qiimo fiican oo berritolana shirkadda markay qaaliyo qiimo fiican halkaas uga soo baxayo tusaale ahaan waxaan ila soo xiriira in badan dad raba shirkadaha digitalka inay geliyaan in ka badan 1 bilyan ilaa 2 bilyan oo dollar labadaas bilyan oo dollar qofkaas haddii la yiraahdo 10 sano ka hor miyuu gelin lahaa jawaabtu waxay noqon lahayd maya laakiin maanta sababta uu gelinaya waxay tahay wuxuu arkay wax shaqeynaya marka waxaa la rabaa walaalayaal dadka shirkaddan aan ku jirin ama memberkaba ka ah inaad fahamtaan kambaniga qiimaha maanta uu leeyahay wuxuu ka sii sare mari doonaa xilliga uu imaado suuqa sababta maanta waxaynu joognaa xilligii loo yaqaanay pioneer ama bilowga ayaa lagu jiraa oo shilinka qiimihiisii iyo dadka faa'iidada uu u leeyahay la barayay ayaa lagu jiraa taasna waa in laga faa'iideysto sidee marka dadka shirkaddan ay ugu talagashay in ay marto systemka ugu muhiimsan oo shirkaddan u ah salkudhiga ama aasaaska wuxuu yahay waxa loo yaqaano one academy dadka in wixii la baro in ay fahmaan kadabadeedna marka dadku fahmaan inay meeshaas uga soo baxdo bulsho la helo dhaqaalihii financialka ama lacagahan shaqeynaya sida u shaqeynayaan fahamsan expert ku ah dhinaca maaragtay dhaqaalaha expertiye badan aad ka baran doonto barnaamijkan inaad heli doonto wax loo yaqaano token shirkaddan lacagteeda ma gadanaysaan walaal marka shirkaddan soo gasho waxaad ogaataa waxaad iibsatay waa educational package baa wuxuu wataa wax loo yaqaano token shirkaddii kadib waxay kugu xiraysaa OneCoin lacagtii OneCoin baa waxay ku siinaysaa si loo yaqaano gift ama lacag la'aan bay kugu siinaysaa shilinka qiimaha shilinkana waxa u yeelaya waxay tahay bulshada badan ee caalamka joogta ee lagu qiyaasay 2 bilyan oo qof marka ay company-gan soo galaan ee wax ku kala gataan qiimaha halkaas ayuu ka imaanaya maanta waxaad ogaataa dollarka waxa qiimaha uu leeyahay adduunka oo dhan baa laga isticmaalaa lacagaha poundka ama sterling loo yaqaano Englishka waxa qiimaha u yeelaya waxay tahay bulsho badan baa meel kastoo tagta caalamka ayaa lagu sarifayaa dhaqaalaha iyo bangiyada ugu waaweyn caalamka ayaana aqbala oo ku shaqeeya shirkad walba marka ama dawlad kasta haddii ay haysato dad badan ee lacagtaas isticmaalaya waxaa imaanaya inay meeshaas qiimo ku hesho marka shirkaddana waxa qiimaha siinaya waxay tahay dad rabtaan inaad isweydiisaan waa kow inay dadkii wax bartay kow ayaa ka mid ah dadkii wax bartay anaga ayaa ka mid ah waxayna na tustay runtii maanta qiimaha ay leeyihiin lacagaha loo yaqaano fiat currency-ga ama dollarka waxaad la socotaan maalin walba lacaguhu hoos bay u dhacaan maxaa keenaya lacaguhu inay hoos u dhacaan waxaa keenaya lacagihii waa la daabacaa in badan laakiin lacagaha kambaniyaashan sameeyaan lama daabaco oo waxaa loogu talagalay tiro go'an kambanigana ugu badan kambaniyaasha wuxuuna sameeyaa 120 bilyan maxaan loogu talagalay in 120 bilyan lacagtaas looga dhigo waxaa loogu talagalay ganacsatada oo dhan iyo dadka raba inay saving ahaan lacagtan u isticmaalaan si uusan ugu dhicin sicir barar halka bangiyada lacagta la dhigto in kambanigan lacagta lagu kaydsado waxaana loo yaqaanaa digital gold ayaa loo yaqaanaa waxyaabahaas oo dhan walaal waxaad ku baran kartaa marka aad gasho one academy oo aad ka qaadato ayaad ka heli doontaa qaybtan kale halkaas aad ka qaadataan waxaa jira wax loo yaqaano one life independent marketing associate one life waa dadka bulshada shirkaddan ku jirta
waxaana ka mid ah aniga iyo adiga iyo bulshada kala duwan caalamka joogta waxaa la isku yiraahdaa magacooda guud dadka memberka ah One Life Network ayaa la yiraahdaa waxaa kaloo jirta network markii laga tago waxaan toos ugu xirannahay lacagti OneCoin oo ah lacag akaanada noogu jirta lacagtaas akaanada noogu jirta maxaan ku isticmaalaynaa waxaad ku isticmaali kartaa inaad deal shakerka wax uga gadato kaba soo qaad maanta haddii aan soo geliyo gurigayga aniga aan leeyahay oo Soomaaliya igu yaala inaan kireeyo waxaan u haystaa laba arrimood inaan coinka kaaga kireeyo iyo inaan 20% oo kale coinka 80% cash kaaga kireeyo oona kaaga kireeyo lacagtaas aan soo geliyo gurigaas aan kireenayo deal shakerka adiga marka aad lacagta aad soo marin lahayd xawaalada waxaad soo dhigaysaa systemka deal shakerka soo dhigaysaa meeshaas waxa ka baxaya marka systemka ahaa inaad bangi ku soo dirto process dheer inteenu lacago naga go'aan sarifaad ayaa meesha ka baxay oo sida Uberka iskugu xiran darawalkii iyo customerkii kala iskugu keenay taa waa inaan aad u fahamno marka barnaamijkan walaalayaal waa barnaamij runtii hadda ka shaqeynaya meelo kala duwan caalamka shirkado badan oo international ay soo galeen maantana lagu kala iibinayo baabuurta waxaan idinku bishaaraynayaa dhamaantiin meelkas aad joogtaan in deal shakerka Soomaaliya shirkadda One Life ay aqbashay oo ka mid yahay wadamadii ugu horeeyay toddobada wadan ugu horeeyay ee ku guuleysata in laga hirgeliyo systemka loo yaqaan deal shakerka inay noqoto Soomaaliya wadan ka mid ah sababta loo sameeyo waxay tahay Soomaaliya waa wadan u baahan in loo abuuro dhaqaale bulshadeeduna ay kaga adeegato lacagta OneCoin meel kasta ay doonaan caalamka dekada way leedahay wadanka Soomaaliya waxa heli kartaa dekada kala duwan koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya meel kasta aad ka joogto kaliya waxa meesha ka maqan waxay tahay laba arrimood in la helo bulsho dhaqaalihii iyo systemkii haysata kow shirkaddan waxaad ka heli kartaa dhaqaale fiican inuu ka soo galo waa haddii aad ka faa'iideysato xilliga hadda la joogo iyo labo haddii aad doonto alaabtaada inaad meel alaale meesha aad doonto caalamka aad ka dalbato adigoona bangi lagugu xujeynaynin ama lacago kale qalaad aadan lagugu xujeynin systemka shirkaddan lacagteeda sida aad ku gadan lahaydeen Soomaaliya system gaar ah ay company-ga u sameysay qaabkaad lacagahan coinka aad ku heli lahayd waa dadka ka soo daaha oo gadaal ka soo gala qaabkii ku heli lahayn waa loo diyaariyay dadka hadda memberka ka ah oo qaybta ugu horeeyay shirkadda ka qayb qaatay iyaguna waxaan leenahay hambalyo waxa idin suurageli doonta inaad coinka ama shilinka aad haysataan OneCoin aad wadanka gudihiisa wax uga gadan kartaan waxaana mar walbana la weydiiyaa oo ay tahay dadku waxayna weydiinayaan sidee ay ku shaqeyn doontaa inaan cash helo marka su'aashu waxa weeyaan coinka isweydii horta coinka waa maxay coinka waa lacag lacagtan waxaa samaysatay bulsho iyo shirkadaha hadda soo baxay sida la socotaan marka hadaad coin haysato already waad haysataa lacagtaa ku talagal waxaadna kaga gadan kartaa online-ka waxaana imaan doonta dukaanada ee aad dariska la tahay magaalada aad joogto iyo xaafadda aad joogto Soomaaliya qaybaheeda kala duwan in ay imaan doonto in shirkaddan lacagtooda ay qaataan danta ayaana maaragtay siinaysa qofka wax gadanaya iyo qofka wax laga gadanayo sababta qofkii asagoo Yurub jooga ayaa waxaa suuragal noqon doonta inuu lacagta ka soo diro Yurub idinkugu soo diro wadankii dukaanka markaas ama carwada ku dhow ciidda oo kale tusaale ahaan waxaan awood qofku u yeelanayaa asagoo Yurub jooga inuu ku soo diro 300 euro mise 500 euro oo sidaas ku yiraahdo qof hebel oo magacaasi wata foojarkaas 500 dukaanka u taala ha kaga adeegto meesha maxaa ka baxay qofkii lacagta soo dirayay xawaaladii uu soo mari lahaa iyo sarifkii baa meesha ka baxaya marka walaalayaal waa muhiim in aan fahamno systemka iyo qaabka uu shaqeynayo iyo in aynu nahay dadka baahida u qabay aad bay muhiim u tahay barnaamijkan haddii Soomaalidu ka qayb gasho iyo haddaysan ka qayb galin waa barnaamij shaqeynaya maanta aniga waxaan ku jiraa inner circle-ka liidarada ugu sarreeya company-gan 10 qof ee company-gan lead maaragtay talada oo la soo noqoto anaguna aanu talo siino shirkadda markaan u baahno aan u aragno inay wax ka maqan yihiin systemkii shirkaddana waxaa ka go'an habeen iyo maalin u taagan tahay in ay dhaqan geliso systemkan ujeedka loo abuurayna wuxuu yahay baahida bulshada 2 bilyan oo qof ah gaar ahaan oo aanan haysan bangiyada in loo sameeyo systemka loo yaqaano bank marka company walaal hadduu ku anfaco waxaad la soo xiriiri kartaa dabcan liidarada barnaamijkan kugu soo xiray barnaamijka qaybtiisa hore aniga oo sayida ayaan qabanayay qaybta labaadna waxaa qaban doontaa liidaradina weyn aqoon-yahanada ah ee ku sugan Norway oo runtii aad ugu takhasustay dhinaca meediyaha kulli dhinaca sayid ahaan meediyaha kuma aan takhasusin laakiin waxaan ku takhasusay dhinaca leadership ama network marketingka marka waxaan ku soo dhaweynayaa wariyada ku munaasabsan barnaamijka qaybihiisa kale inay idin sii dhigto xalwa cali oo joogto Norway ku soo dhawo walaal aad baa mahadsantiin
iyo aad baad u mahadsan tahay sayid cabdi waa kaaga mahadcelinayaa sidii wanaagsaneed barnaamijka maanta aad noola qaybsatay qaybtiisa hore haddii la imaqlaayo waxaad muddaa xoogaa codkaygiinu aad u hooseeyo waxaan isticmaalaya waa hagaag waayahay aad baad u mahadsan tahay sayid waa uga mahadcelinaynaa sidii wanaagsaneed sharaxaada guud oo naga siiyey shirkadda one life muhiimadda waxay tahay waxa aan meesha u joogno maanta oo waqtigeena u gelinayna inaan ogaano taas ayaa muhiimadda ay tahay ma u baahnidin dabcan in aad dhegaysataan ood iska baxdaan laakiin haddii aad dabcan waqtigaada waa qaali waqtigaada aad eegto barnaamijkaana aad soo gashid muhiimadda waxay tahay sidaad uga faa'iidaysan lahayd inaad adiga isweydiisid iyo waqtiga ku habboon ee aad ka faa'iidaysan karto waxyaalaha inta badan dadkeena dabcan aan xooga saarno waxay tahay dadka barnaamijkan inay ka faa'iidaystaan dabcan qof walbana wuu ka faa'iidaysan karaa muhiimadda waxay tahay waxa inaad fahantid dibna aad isugu noqotid ee aad ogaatid halka loo socda waxa ay tahay sidaa darteed annaga waxaan waqtigeena khaaliga ah run ahaantii aan gelinaa maalin kasta oo axad ah iyo maalin kasta oo sabti ah bulshadeena soomaaliyeed sida ay uga faa'iidaysan lahayd barnaamijkan ee ay uga qayb noqon lahaayeen maadaama uu yahay barnaamijka caalamku u guurayo adigana sidoo kale waqtiga aad soo gelisay waxaa muhiim ah waqtigaada inuusan meel cidlo kaaga dhumin waxa maanta halkaan aad u timid inaad wax ka barato ugu yaraan kadibna aad adiga dib isugu noqoto su'aal maxaad ka baran kartaa maxaad ka faa'idi kartaa dabcan barnaamijkan shirkadda one life waa barnaamij international ah isaga kuma baahno mana noo baahna annaga laakiin annaga ayaa u baahan haddii aan nahay bulshada soomaaliyeed meel kastoo aan joogno waa wax horumar ah horumarka caalamkana mar unbaa lala qabsadaa maadaama maanta aan nasiib u yeelanay inaan ka mid noqono cryptocurrency runtii annaga ayaa u baahan oo nooma baahna caalamkao dhan ayaa barnaamijkan hor u galay marka maanta waa maalinteeni insha allah inaan ka faa'iidaysan ayaan insha allah idinkula talin lahaa screen shareka ma la arkaa sayid ha xalwa si fiican aynu aragnaa walaal noo weyne keliya waana mahadsantihiin walaalayaal marka ugu horeysa dadka cusub soo dhawaada barnaamijkan qaybtiisa labaad sharaxaad ayaa qaadan doona oo ah suuqa onlineka ama dealshareka loo yaqaano iyo qeybaha kale ee baakejyada qofka uu iibsan karo shirkadda uu kusoo geli karo inta ugu muhiimsana dabcan sayid ayaa noo qaada dhigay inta xigtana insha allah waxaan rajaynayaa inaad su'aalo muhiima idinkaga soo baxaan oo aadna soo weydiisaan haddii barnaamijka aad ku cusub tahay maanta laguga casumay su'aalo badanna maskaxdaada ay kusoo noqdeen kadib markaad dhegaysatay insha allah waxaad la xiriiraysaa liidarkii kugu soo casumay sidoo kale liidarada kale way ku caawin karaan wixii su'aaloo dheeraad ahna waad nala soo xiriiri kartaan qeybaha social mediaha sida youtube-ka facebooka iyo sidoo kale whatsappka instagramka iyo snapchat intabaad nagala soo xiriiri kartaan walaalayaal si su'aalihiina aad uga qanacdaan waxaan rabaa marka dadka liidaradana iyaga ayaa mas-uula dabcan uma baahan inaan wax kale usii sheego barnaamijkan qaybtiisa labaad waxay tahay maanta waxaan kusoo qaadan doonaa wax la yirahdo usability usabilityga waa maxay isticmaalka shirkadda one life shirkadda one life waxyaalaha ay uga duwan tahay shirkadaha kale ee cryptocurrency ku shaqeeya waxay tahay waxay leedahay wax la yirahdo usability oo ah lacagteeda inay tahay lacag la yaqaano oo la isticmaalayo wax lagu iibsan karo lagu kala wareegi karo maxay ahayd la isticmaali karo aniga aan wax ku iibsan karo adiga aad wax ku iibsan karto qof walba oo shirkadda ka mid noqdana uu noqon kara mid isaga wax ku iibsaday ama isaga wax looga iibsaday waana waxyaalaha ugu muhiimsan waxaad ogtihiin lacagaha inta badan caalamka waxay leeyihiin waxa la yidhaahdo supply and demand waxa la yidhahdo ayay leeyihiin oo ah dabcan lacagtii supplyga ahayd ama maxay ahayd dadkii ay gudbiyeen iyo sidoo kale rabitaankeeda oo ah haddii lacagta supply iyo demand aysan lahayn inaysan lacag noqonaynin oo ay tahay wax iska magac ah shirkaddan marka maanta dhinaca demandkana way haysataa oo rabitaan ah oo waxay haysataa suuqa qiimaha badan ee usabilityga iyo sidoo kale qaybta waxbarashada ee one academic ayay haysataa sidoo kale supply-gana waa waxyaalahan maanta lagu kala iibsanayo ad ogtihiin baabuurta ayaad ku iibsan kartaan guryaha ayaad ku iibsan kartaa guryaha ayaad ku kireen kartaa waxyaalaha kale ee aad doonaysa aad ku wada adeegsan kartaan tusaale ahaan haddii aad dukaan ku leedahay magaalada nairobi ee dalka kenya oo dukaankaada uu yahay dukaan telefoonada gado ee telefoonada aad maanta iminka hayso waxaan kaaga iibsan karaa si online ah lacagta coinka ayaan kaaga iibsan karaa tusaale ahaan haddii aan u baahdo telefoonka samsung s la yidhaahdo ama 8s la yidhaahdo haddii aan u baahdo oo dukaankaada uu yaalo anigana aan norway jooga oo aan doonayo gabar saaxiibaday ama walaashay nairobi joogto inay telefoonka qaadato si fudud oo 5 daqiiqo gudahooda ayaan lacagta kugu wareejinayaa oon kuugu dirayaa maxay ahayd coinkaada isla markaana aad ku kala wareegaysaan gabadha inay telefoonkeeda ku qaadanaysaa waa wax sahlan platformkan loogu talagalay laba arrimood oo ah xayeysiin oo ah waxaadii aad adiga iibinayso sawiradaadii
maxay ahayd inaad waxaad faahfaahiso oo aad sharaxdo aad kusoo dhigi karto pageka adiga aad ku yeelatay suuqan online-ka ah isla markaana adiga aad wax ku iibin karto waxna aad kaga iibin karto dabcan iska xira walaalayaal codadka iska xira codkiina unu ninta fardeyma rabo marka walaalayaal barnaamijkan runtii dad nasiib la ayaa helo dadka ganacsatadana si gaar ah ayuu u anfacayaa haddii aad leedahay kaalin shidaal haddii aad leedahay dukaan dhar ah haddii aad leedahay dukaan mobile ah haddii aad leedahay ganacsi ayu nuuc ayaad ku xayeysiisan kartaa ee aad ku iibsan kartaa si fududna lagaaga iibsan karaa caalamka meel kastoo ay joogaan dadka macaamiisha shirkadda ka midka ah maxaa marka diidayo waxaan mar walba walaalayaal idinla qaybsadaa waxaa jiri jiray qofka ganacsatada ama shirkadaha ganacsiga waxay isticmaalaan waxa la yidhahda xayeysiin oo lacaga badan ay kaga baxayaan trillion sanad kasta oo uu isticmaalaya telefishinka ama tviyada idaacadaha iyo wixii lamid ah maanta caalamka uu ka gudbay itus oo itaabsi wax la dhahaa ayaa la sameeyey oo ah suuq online ah oo aad waxaada ku xayeysiisan karto kusoo bandhigan karto waxaad ogtiin facebooka maanta markaan isticmaalayno subaxka markaad geshid waxaa laga yaabaa waxyaalihii aad lasoo kulantay xale iyo maanta inaad soo geliso oo adiga aysan kaa ahan xayeysiin laakiin imisa qof ayaa arki karto waxyaalaha aad soo geliso tusaale ahaan waxaan leeyahay igu sawir ayaan soo qaadaya anoo suuqi maraayo sawir ayaan soo qaadaya kadibna facebook ayaan soo dhigaya imisa qof ayaa sawirkaa arkayso lacagii kama helay laakiin platformkan wax alaale waxaad soo geliso waa wax qiimo leh ay noqonayaan dadka kula soo xiriirayna waa dad wax kaa iibsanaya ama adiga aad wax ka iibsanayso way ka qiimo badan tahay waqtiga aad geliso facebooka oo lacag la-aanta oo dhaqaale la-aanta waqtigaa timekaada kaa dhumiyey iyo waqtiga aad geliso dhil shakar oo adiga aad wax aad iibinayso soo dhigto ugu yaraan haddii gurigaada alaabta taalla fadhigaad iska bedelayso armaajada aad iska bedelayso waad soo gelinaysaa waxaad leedahay alaabta isticmaalka ayaan hayaa isla markiiba qof ayaa u baahan wuu kuu soo gelayaa coinka ayuu kugu diraya alaabtina uu kaa qaadanaya shippingka baad ku heshiinaysaa marka runtii barnaamijkan lil shakar aad ayuu u qiimo badan yahay meel kastoo aad joogtana waa suuqa caalamka waxaad ogtiin suuqada onlineka caalamka maanta heerka ay gaareen iyo bulshada caalamka heerka ay ka gaarto aan soo qaato amazon sanadka lasoo dhaaf wuxuu noqday maxay ahaaday ninka haysta ama madaxa ugu sarreeya ninka caalamka ugu lacagta badan ugu dhaqaalaha badan oo ka bedelay bill gates maxay tahay sababta u bedelay de suuqan onlineka caalamka oo dhan laga aqoonsan yahay dhaqaalaha البريكسي كاستو انتاس او بليون او لعب اما كانتي هي اسكداي marka shakar oo Soomaaliya adiga maxaad ka faa'iidi kartaa sababtoo online kama heli kartid inaad si toos ah dukaankaada uga iibiso haddii aad Soomaali joogto waa laga yaabaa dadka maanta Yurub jooga inay account ka samaystaan wax ku iibsadaan laakiin Soomaaliya kama shaqeynayo maadaama marka maanta bedelkaada suuq ka casrisan suuqaas aan helnay ee Soomaaliyana 10 waddan ugu horeysay uu aqbalay oo kamid ahaa waliba 7 waddan ugu horeysay maanta Soomaaliya aad wax harta kaga iibsan kartid ganacsatada waaweyn Soomaaliya ay ka faa'iideysan karaan ganacsigooda ay ku kala bedelan karaan maxaa diiday marka inaad adiga maanta fursadan ka faa'iideysato that's why aan halkaan u fadhiyaa maanta that's why aan idinkugu sharaxaa inaad fahantaan oo aad ka faa'iideystaan markaan sameeyay waxa laga yaabaa in badan oo dadka aan shirkad ismar soo galnay ama aan nahay asxaabta aan nahay in badan oo kamid ah inaysan ogeyn ay baaritaan sameeyeen laakiin runtii aniga baaritaanka aan sameeyay waxaan ogaaday suuqa dhil shakar haddii aan ka faa'iideysano Soomaaliya inaan ka soo saari lahayn dad bilyaneers ah oo adduunka la tartamo dhaqaalaha adduunka la tartamo oo la yiraahdo hebel waxa uu dhashay wadan la yiraahdo Soomaaliya oo Afrika ku yaala geeska Afrika ku yaala wuxuuna soo galay top 10 ganacsiga adduunka soo galay xaqiiq waxa ah haddii barnaamijkan aad fahantaan inaan soo saari doono gabdho dumar ah ama rag ah billions ah oo la soo gala top 10 Afrika soo gala inaan soo saari doono sidee baan marka ku soo saarayna waxa nooga baahan yahay barnaamijkan inaan si fiican u fahano aqoon ayuu kaaga baahan yahay barnaamijkan uma baahno maxaa la yiri uma baahno xalwo maxay tiri uma baahno sayd muxuu yiri wuxuu u baahan yahay adiga inaad research samaysid adiga inaad qaadatid oo aad aqoonta ahaan u raadisid qasab ma aha in aad Englishka inaad taqaano inaad aqaanin qof walba luqadiisa ayaa dahab u ah runtii luqadaada meel kastoo aad tagtid inaad ku faanto way fiican tahay barnaamijka hadda qaybtiisa lil shakarka waxaa noo soo socda sayid liidarkeena weyn uu sameeyey ama uu ballan qaaday in pageka ama qaybta Soomaaliya uu noqon doono gebigiisa Soomaaliya lagu saxiixi doono waxyaalan hadda aad u jeedaan qofka markuu soo gala informationadan sheega waxaad iibinayso meesha aad click siinaysid home ko kale waxyaalahaas oo dhan wuxuu noqon doonaa Soomaaliya ayaa uu noqon doonaa maxaa diiday markii aan ka faa'iideysano run ahaantii waa fursad aad qaali u ah qof walba anaga naga mid ama gaar ahaan dadka ganacsada ay ka faa'iideysan karaan si marka barnaamijkan aad uga faa'iideysatid waxaan ku leeyahay waa inaad adiga samaysid baaritaan waa inaad aqoon u yeelato soo gal shirkadda package iibso cryptocurrency wax ka baro
suuqyada online ka baro deal shaker gudihiisa gal cashiro ayaa la bixiyaa joogto ah tababaro ayaa la bixiyaa tababarada ka qayb qaado waxaad noqon doontaa sidaan idin sheegay haddii aad u kuurgashid qofka ka faa'iidaysta barnaamijka qasab ma aha dadkoo dhan inay ka faa'iidaystaan runtii caalamka waxaa lagu qiyaasaa 2% ayaa fursadaha ka faa'iidaysato oo aragta fursadaha qaaliga ah halka maxay ahayd 98% ay u arkaan waxyaalahan cusub wax lagu dhacaayo waswaas badan iyo qanaas ayay arkaan waxa u muuqda guul darro waxa u muuqata inay derbi ka dhacayaan waxa u muuqata dabaq dheer inay kasoo dhacayaan waxa u muuqata xoolahooda inay basanbaas iyo haama ay ku ridayaan laakiin waxaad ogaataan 2% ayaa guulaysato waxaan rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed ee maanta halka ku jirta ay dhageysanayso barnaamijkan baaritaanka aan soo sameeyna idinla qaybsaday in uu yahay kii saxda idin anfici lahaa inay kasoo baxaan 2% gabdho iyo wiilal dhalinyaro ah wax barta jaamacadaha ka baxa barnaamijkan ay ka faa'iideystaan iyo sidoo kale dadka ganacsatada ah yar iyo weynba inay kasoo baxaan 2% oo barnaamijkan ay ka faa'iideystaan bulshadoodana uga faa'iideyaan oo ay ka saaraan faqriga gaajada ee loo tuugsado banaanka runtii waa laga gudbi lahaa haddii la helo 10 qof oo billionaires ah oo Soomaali ah oo maanta soo gala top 10ka ganacsiga ama businesska Afrika soo gala waa ka gudbi lahayn in dadkeena hay'ada aan uga bariisan runtii taasna waa inaan fahano ayaan halka maanta anigu fadhiyaa aan waqtigeyga qaaliga ah familkeyga caruurteyda iyo reerkeyga aan oo ii baahnaan idinka maanta halka idin soo fadhiistay run ahaantiina inaan idin la wadaaga aan u arkay balse waxaa laga yaabaa adiga inaad i fahmin ay i fahmaan young generationkaada ama caruurta adiga aad dhashay inay i fahmaan oo barnaamijkan ay ka faa'iideystaan muhiimadda waxay tahay adiga ayaa hadda gacanta ka barnaamijka inaad ka faa'iideystaan deal shakerka aad ayuu qaymo u leeyahay haddii aan u gudbo markaa suuqa deal shakerka halka aan kaga gudbo runtii deal shakerka haddii aan idhaahdo waa ka sheekeynayaa intaan ka bartay dabcan ma kusoo koobi karo saacado yar ama daqiiqado yar waayo wax badan ayaan ku arkay aan dhexgalay dhinaca technologyada intaan ka aqaanana aan sameeyey waa sidaan idin sheegay dabcan kolley waxaa laga yaabaa dad kale inay war ka duwan idin sheegaan laakiin aniga aqoonteyda yar iyo intaan ka bartay deal shaker waa fursadda ugu qaalisan ee barnaamijkan ku jirto marka laga soo tago qaybta One Academy shirkadda One Life oo la yiraahdo parent company One Life ayaa hooyo u ah waxa ay hooyada u tahay waxa weeye qaybaha kala duwan ama platformkaasi ay ku midoobeen oo ay ugu horeyso One Academic oo ah meesha waxbarashada ama package qofka uu shirkadda kaga mid noqon lahaa uu ka iibsanayo sidoo kale deal shakerka waa platformkii hadda aan idin sharaxay oo suuqa online ka ah waxay leedahay One Forex oo ah qaybta suuqa sarifka waxaad ogtiin suuqa sarifka caalamiga inuu yahay suuq aad u weyn oo 3 trilyan in ka badan maalintii lagu kala gedisto qayb ay shirkadda ka tahay oo waliba aad u qiimo badan oo ah qaybta cryptocurrency-ga ah lacagaha lagu kala sarifto ama suuqa cryptocurrency-ga qofkii dabcan ku takhasusay dhinaca forex-ka wuxuu ka faa'iideysan karaa qaybtaas qofkii ku takhasusay dhinaca suuqa iyo ganacsiga halkaas ayuu ka faa'iideysan karaa halkaana way naga dhaxaysaa oo meesha guud oo shirkadda laga soo gala waxaan u gudbaynaa qaybta kale oo ah XCoinX waxaa la yidhaahdaa shirkadda platformka qaybta sarifka lacagaha oo exchange-ga loo isticmaali doono qofka marka uu doonayo lacagta coin-kana halkaas ayuu soo marin doonaa suuqa markay imaato wixii ka dambeeya qofka doonaya inuu lacagaha kale ee cashka ama fiat currency-ga helaan ama lacagaha kale digitalkana halkaas ayuu ka sarfan doonaa qaybta dadka ay inay ugu muhiimsan tahay xilliga muhiimsan yahay ayay kamid tahay shirkaddan runtii waxay soo baxday ama lacagaheeda toos package-yada waxa looga iibsaday 2015 waxayna kusoo baxday qiimo ah 50 cent oo lacagta euroga ah way socotay wixii soo gurguurtay sanad ka dambe 4 sano ay hadda shirkadda jirtaa 2018 dhamaadkiisa waxa ay tagtay 26.95 maanta oo ah bishii January 2019 kana waxay joogtaa 39.95 oo lacagta euroga ah oo u dhiganta $36 waa halkeedii coin halkaas ayuu marayaa rajada la qabo ama maxay yahay sida la rajaynayo shirkadda lacagteeda way sii socon doontaa qaali ayay noqon doontaa 3 biloodba mar ayay isbedeshaa oo ay kor u kacdaa qiimaha lacagta waxaana la rajaynayaa inay gaarto 100 ilaa 50 oo lacagta euro inta u dhaxaysa halkeedii coin haddii aad iibsatay markaa shirkadda aad ka mid noqotay marka ay ahayd 50 cent ee ay 100 gaadho maxaad u malayn kartaa inaad ka faa'iideysid lacagta aad iibsatay package waxbarashada ee ku noqotay tokens kadibna ku noqotay waxa la yiraahdaa coin-ka faa'iido badan ay ku qabtaa runtii adiga oo weli fursad u haysato qaybta network marketing-kana ka shaqaysan karto darajana gaari karto shirkaddan ay kugu abaalmarinayso platformka aan kuu sheegayna ka baran karto dhinaca dhul maxaan ku rahdaa deal shakerka iyo sidoo kale qaybaha kale ee shirkadda ay leedahay
shirkadda one life waa shirkadda maanta aan idin sharaxaya waa shirkad cryptocurrency ah isla markaana number 1 soo gashay sanadkii u horeeyay marka qiimeynta la sameeyay shirkadaha la yiraahdo cryptocurrency-ga ama la isku dhaho shirkadaha lacagaha cryptocurrency-ga sameeya waxay sidoo kale shirkaddan leedahay hadafkeeda ama visionkeeda wuxuu yahay lacagteeda inay noqoto lacag usability ah inay hesho dadka caalamka ugu badan maxay ahayd lacagta isticmaalaya oo qaybta demand-ka ah sidoo kale qaybta isu gudbinta iyo wax kala iibsashada bulshada ay kaga faa'iideysan karto iyagoo waxbarashada ka faa'iideysanayna waxay ka noqotay number 1 saddexdaas qodob baaritaan markii la sameeyay suuqyada caalamka ama shirkadaha caalamka waxay soo gashay lambarka koowaad dadka ugu lacagta badan billions-ka ah top 10 ka soo galana dhaqaalaha ugu badan waxay ka heleen dhinaca cryptocurrency-ga gaar ahaan shirkadda one life internet-ka ayaad ka baari kartaa haddii ilaahay idmo qof kasta oo fursad oo heli karo ee fahmi kara luqadda ingiriishka okay shirkadda one life haddaba sidee baan qofka kusoo geli karaa one academic markaad soo geshid waxaad iibsanaysaa wax la yidhaahdo package oo waxbarasho ah oo ah waxaa packageka ku jira wax la yidhaahdo educational tokens oo tokenska ah promotion ah waxaad helaysaa tokenskaas kadib mine wax la dhaho waxayna aadaysaa coinka haddaba qiimaha markaasi aad ku iibsan karto starterka ayaa ugu yar starterka 110 euro ayaad kusoo geli kartaa tokens ahaan wuxuu kuu noqonayaa 800 tokens kadib markaad mineka u dirto waxaad helaysaa coin trader oo 550 ah ayaa ku xigo isagana sidoo kale wuxuu leeyahay laba split kadib waxa aad hesho waxay kuu noqonaya coin pro traderka ayaa ku xigo 3 split ayuu kuu leeyahay kadibna coin ayaad u dirsanaysaa tycoon waa packagekan aad ayuu qiimo u leeyahay runtii qof walba oo shirkadda soo galana waxaa muhiim ah tycoon inuu marka ugu horeyso uu ku fikiro inuu tycoon iibsado maxaa yeelay tycoonka wuxuu kuu ogolaanayaa ama uu ku geynayaa dariiqa ah inaad noqotid network marketer ama marketing inaad ka shaqaysatid oo aad noqotid marketer taas oo ah marka aad shirkadda kusoo biirtid darajada ugu horeysa shirkadda laga gaaro sapphire ayaa la yiraahdaa sapphire-ka qiimaha iyo qofka waxa laga rabo laba arrimood ayaa laga rabaa oo ay ugu horeysa business value lacagta shirkadda uu soo geliyay baakayada dadka iibsaday iyo sidoo kale dadka shirkadda aad kusoo dartay 6 qof ah 7,000 oo lacagta waxaa laga doonayaa ah lacagta euro ah dadkaasi qiimo ahaan waxay iibsadeen iyo sidoo kale 6 qof waxaad u gudbaysaa marka sapphire markaad noqoto shirkadda waxay ku aqoonsanaysaa inaad leader tahay wax hogaamin karo bulshada dadka shirkadda kusoo darina caawin karo oo aqoonteeda leh tycoonkaas marka wuxuu kuu gudbinaya markaad tagtid sapphire ruby aad tagtid imaral marka aad aadaysid waa inaad haysid tycoon haddii tycoon aad haysanin darajooyinka isdaba yaala ee ah ilaa blue diamond crown diamond black diamond ma gaari kartid maxaa yeelay tycoonkan waa inaad heshaa marka qof walba oo soomaali waxaan kula talinaa marka ugu horeyso ha ku bilaabo baakeejadan yar laakiin tycoon inuu iibsado tycoon inaad iibsatana shirkaddan haddii aad soo geshid kuguma qaadanaysa culeys badan maxaa yeelay waxaad noqonaysaa qof motivate ah oo waxaa kuu soo baxay fursado badan oo aad ka shaqaysato oo lacagtaas 5,000 iyo 500 oo dabcan hadda aadan ogeen inaad helaysa in kale haddii hadaf aad ka dhigato 5 bilood gudahooda ayaad ku heli kartaa isla markaana aad dadaashid ee shirkadda aad ka shaqaysid labada dhinacba dhinaca network marketingka iyo dhinaca kale qaybaha waxbarashada iyo suuqa kale ee deesha kale haddii aad ka shaqaysid uma baahnidba inaad meel kale ka raadisid sidoo kale premiumka waa isagana baakejyada waaweyn ayuu ka mid yahay 13,750 euro ayaa la iibiyaa kadibna waxa uu ku noqonayaa tokenska mining splitka ayaad u dirsanaysaa automatic of tokens waa sore si automatic ah ayuu isaga maxay ahayd split garaynaa kadibna lacagta ayay ku noqonaysaa oo coin ah initial waxaa la yidhahdaa packageka ugu weyn 55,555 lacagta euro ayaa la iibiyaa packagekan runtii dadka waxaa iibsada ganacsatada kambaniyaasha waaweyn iska leh ee doonaya inay maxay ahayd iska diiwaangeliyaan suuqa dhilsheekarka ah hantidoodana halkaasi ay ku iibiyaan dadka og iibiyaan dadkana ay ku baraan qaybta xaysiintana ay sameeyaan qof walba oo marka doonaya inuu noqdo ama kaalin shidaal hayso ama dukaan weyn hayso ama shirkadda maxay ahayd baabuurta hayso ama hayso qalabka ama shirkadaha qalabka keena ee Soomaaliya waxaa jira dad badan ganacsato oo shirkado badan leh ee ka keena banaanka wax ka keena tycoonkaas ay kula talnaa inay gasaan kadibna ay ka faa'iideystaan oo bulshadooda ay u noqdaan dadka ay ku daysan karaan haddaba waxa la yiraahdo waxaa jira direct sell waa maxay direct sell direct sell waxa weeyaan shirkad markaad kusoo biirsan kuu sheegay darajooyin ayaad gaaraysaa kala sareeya dad ayaa keentay ugu horreyn marka ugu horeysa 2 qof ayaa lagaa doonayaa adiga inaad keentid oo ah bidix iyo midig inaad ka kala dhigto gacantaada midigna qof aad dhigaysaa gacantaada bidixna qof dadkaasi qof walba 2 qof ayuu keenayaa oo sidaas oo kale ah
kadibna dadka adiga aad keentay waxaad ku leedahay ima dadkii aad keentay dadkay sii keeneen commission ayaad ku leedahay direct sale waxay iibsadeen 10% ayaad ku leedahay package qofka uu iibsaday sidoo kale waxa la yiraahdo waxa jira lacagtaas commissionka ah ee dadka aad ka heshay isniin kasta ayay soo dhacaysaa laga bilaabo maalinta talaadada arbacada khamiista ilaa laga gaaro isniinta kale maalinta axada laga gaaro wixii isbuucan aad shaqaysatay maalinta isniinta ayaa lagu soo dirayaa oo waxay kuu soo gelaysaa cash account shirkada aad ku leedahay waxaad kula bixi kartaa cash waa lacagta euroga ah adiga ayaa ka dhigan karta wadanka joogta lacagtiisa haddii aad Kenya joogto shilinka Kenya adaa u bedelan karo haddaba halkan waxaa la yiraahdaa three generationka waa maxay waxay ku xiran tahay qofka direct sale qofka uu helayo package uu iibsaday hadda tusaale ahaan package starterka waa kasoo tagna waayo starterka waa package ugu yar qofka kama helo commission marka ani kulama taliyo runtii dadka teamka aan doonaya inay horumar gaaraan inay starterka iibsadaan laakiin haddii ay ka tegi weyso oo qofka uu dhaqaale haysanin in marka hore uu kusoo gala kadibna uu u gudbo isaga ayaa samaysan kara agoodda isaga ayaa iskale waxaan marka ka bilaabaynaa wax la yiraahdaa trader 550 euro ayaad iibsatay dadka labada qof generationkaada first generationka waxaa la dhahaa qofkaada midig iyo qofkaada bidix waa labada qof adiga aad keentay adiga ayaa aabow ah waxaad ku leedahay 10% waxay iibsadeen pro trader haddii aad haysato waxaad ku leedahay second generationka iyo first generationka oo ah labada adiga aad keentay iyo labadii ay sii afar qof ay sii keeneen oo ah ad awoowaha u tahay ama haddii taakuun aad iibsatay oo adiga waxaad leedahay taakuun uu yahay waa sidaan idin sheegay taakuunka aad ayuu qiimo badan yahay waxaa marka aad helaysaa first generationkaadii second generationkaadii third generationkaadii and fifth generationkaadii oo ah generationka koowaad oo aabahaad u ahayd kii labaad oo awoowahaad u ahayd kii saddexaad oo abkooga aad u ahayd iyo kii afraad oo kasii soreeyay ahay marka dhammaan sidaasoo dhan ayaad uga helaysaa taakuun markuu yahay 10% ayaad labada u horeysa ka helaysaa labada xigtana 20% iyo 25% ayaad ka helaysaa waxa ay iibsadeen markaad usoo laabto waxaan idin iri waxaa jira darajooyin laga gudbo dadkay u kala gudbaan oo ah maanta sayid cabdi waa liidarkeen noogu sareeya soomaali haddii aanan bahda soomaaliyeed oo ah blue diamond maanta ah shirkadana ka ah inner circle darajada uu jooga blue diamond waxaa ka dambeeya laba darajo oo la yiraahdo black diamond iyo crown diamond si aad darajooyinkaas oo dhan ku gaarto dhammaantiin waad gaari kartaan runaantii dad aad u fircoon ayaan nahay soomaali haddii aan nahay waxaana la yiraahdaa inaan nahay or waxa la yiraahdaa oral society oo ah dadka hadalka ku nac oo dadka wax u sharixi karo oo dadka la hadli kara inaan aad uga fiicanahay wadamada kale caalamka maanta waxaan u maleynahay wadamada dadka dhaqan ahaan ama midab ahaan aan isugu dhownahay waa dalka Eritrea dadkooda markaad dhexgashid waxay ku leeyihiin Soomaali hadal badanaa oo idinka hadal badnidina markaad ku tiraahdo waayo idinka anagu waxay ku leeyihiin islama hadalno waayo keli hay aan isdhahnaa waa is-salaana mac salaama waxba iskuma darsano qofkan muxuu yahay iyo xaguu ka yimid iyo reer hebel miya ma dhahno laakiin Soomaalida waxay ku leeyihiin qofka hadday arkaan waxay doonayaan inay ogaadaan salkiisa meesha ka soo baxay awoogiisa shanaad waxaa laga yaabaa sidoo qofkan ugu abtirinaa inuu ku geeyo meesha ugu dambayso adiga weliga aad maqal sababta maxay tahay oral society ayaan wax ma akrino keli waxaan dhageysanaa wax maxaa la yiri qofka markuu hadlaayana waxaan siinaa wax la yiraahdo attention inkastoo caalamkoo dhan attention siinta ay ka mid ka simanahay oo lagu leeyahay qofka markuu hadlaayo waa inaad adiga inaad si fiican u dhageysataa inaad tusaa muujisaa qofka inaad dhageysanayso dhageysta wanaagsan inaad maxay aad tahay haddaba maadaama aan nahay oral society oo aan nahay dadka hadalka badan oo aan nahay dadka jecel inay dadka kale walaalahooda wax gaarsiiyaan barnaamijkan waa barnaamijka saxda in ka faa'iideysan karna waxaan ka hadlaa waa dhinaca communityga oo la yiraahdo network marketingka waxa uu kaaga baahan yahay inaad dadka wax u sharaxdo inaad tiraahdo niyahow meeshaan ma arkaysaa ha baakadina haddii aad iibsato waxaas ka helaysaa anigu waan ka helay adigana dadaala lagaa rabaa qofkii waxaa laga yaabaa maalintii waxaan ka faa'iido inuu kaaga mahadceliyo uu ku yiraahdo walaalo waad mahadsan tahay maalin maasha allah khayr lahaad ila soo xiriirto arrintan marka si marka aan u gaarno aan u helno gabdho liidara ah rag liidara ah ee barnaamijkan ka faa'iideysan karo waa inaan xooga saarnaa qaybta network marketingka dadka waa inaan u sharaxnaa waa inaan u sheegnaa waxa ay ka faa'iidi karaan maanta waxaa jira dhalinyaro aad u fara badan da'yar ah wax bartay wadankii jaamacadaha ka baxay dugsi sare ka baxay dugsi hoose hataa ha ka baxaan oo aan haysanin shaqo abuur waxay u baahan yihiin dadka in loo sheego la gaarsiiyo starterka loo gado shirkada lagu soo daro la caawiyo tababarka qaata la yiraahdo liidara Soomaali ayaa joogaan idin caawinaya lagu soo xiro iyaga marka ha shaqaystaan
ha qabtaan presentation dadkooda ha u sheegaan barnaamijkan ha ka faa'iideysan dadka aan gaarsiisnay ha gaarsiiyaan tuulooyinka ha tagaan waxyaala loo baahan waa waxaas waxaan noqonaynaa markaa bulsho fahantay caalamka halka u socdo marka darajooyinkaas si lagu gaaro waxaa loo baahan yahay dadka inaad wax u sharaxdid dadka ay soo galaan ay baakeejid waxbarasho iibsadaan adigana aad wax kaa faa'iidid iyagana ay wax ka faa'iidaan waayo ganacsi ayaa meesha ku jira ganacsigan markaa dad badan oo Soomaaliyeed ma oga ganacsigan ee la yiraahdo community-ga oo maanta aan idin sheegay oo ah network marketing-ka laakiin xaqiiqdu waxaad ogaataan dadka caalamka ugu lacagta badan ee ugu dhaqaalaha badan ee loogu aqoonsan yahay ee ah dadka formaska ah waa network marketer kulligood intooda badan barnaamijkan ay ku jiraan ugu caalamsan ee iyaga oon la rabin la necab yahay soo baxa waa dadka ku shaqeeya network marketing-ka oo bulshada caalamka u sheega halka ay wax ku jiraan faa'iidada waxa ay ku jirtaa ganacsiga waxaad ogaataan walaalayaal haddii aad tahay shaqaale ee qof aad u shaqaynayso 8 saacadood qof aad u shaqaynaysid maalinta aad gaarto 50 sano waxaad noqon doontaa retire lacagtaadan halkaas ay ku dhamaan doontaa saacadda way ka dhamaatay waqtigu wuu ka dhamaaday dibna uma cishan kartid marka waxaan leeyahay barnaamijkan waa laga faa'iideysan karaa waqti badan kaagama baahno anu waa shaqaystaa hadda waxna waa bartaa jaamacadan dhigtaa ee shaqadeydana waa wataa haddana maalinta sabtigii axadda idinla shaqeeya iyo fiidkii markaan shaqooyin ka soo baxo sabab maxay tahay waxaa laga yaabaa dhaqaalaha halkan iga soo gelaayo mararka qaar iga soo galo hadday noqoto commission ama waxyaalaha aan iibiyo hadday noqoto inay ka badan tahay dhaqaalaha 8 saacadood meeshaan ka shaqeynaa iga soo galo of course way dhici kartaa marka walaalayaal waxaan idin leeyahay horta marka ugu horeysa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh barnaamijkaani naga mid dhigay inta maanta maqlaysana sidoo kale waxaan rajaynayaa in ayagana ay nasiib u yeeshaan ilaahay inuu kusoo hagaajiyo inay ka faa'iideystaan laakiin waxaa ka faa'iideysan doona 2% oo ka gudbo waswaaska iyo qanaaska ay u muuqata opportunity-ga fursadda ay u muuqata ayaa ka faa'iideysan doona waxaan leeyahay marka intiina dhageysanayso ilaahay ha idinka dhigo inta ka faa'iideysato ee sadaqada ka baxsado shirkadan waxay leedahay sidoo kale waxyaalaha la yiraahdo charity-ga qaybta sadaqada ayaad ka shaqaysan kartaan oo wixiina waxaad gelin kartaan dadka agoomaha inaad ku caawisaan bari ka maalin marka aad lacag fiican halkaa ka heshaan walaalayaal waxaan idin haay maanta wataa qof kastoo idinka mid waad ka faa'iideysan kartaan dadka shirkadda hore ugu jiray ee barnaamijkan aan ka faa'iideysanin ay kali u fadhiyo qolalka waxaan doonaynaa shirkad inay suuqa imaato shirkadda suuqa way imaanaysaa uma baahna in ay cid u sheegto waqtiga imaanaysa wayna imaan doontaa qasabna ma aha anaga inaan nidhaahno waqtigaas ay imaanaysaa waqtigeeda ayay imaan doontaa hala sugo barnaamijkan aad wax ku darsateena ka faa'iideysto fursado badan ayaa jira fursadaha yaan la ilaabin dad badan ayaan ogeyn fursadaha haddii idinkaad u baahneen insha allah dadka kale gaarsiiyo walaalayaal meel kasta joogtaan barnaamijka qaybtiisa ugu dambeysay anigoo xalwo cali ayaa idinla socodsiinaya waxaan furi doonaa goordhow 5 daqiiqo waxaan qaadan doonaa insha allah break waxaan furi doonaa su'aalaha iyo dadka uga faa'iideysan lahaayeen iyo haddii ra'yi aad hayso oo leader aad tahay dadka inaad u faa'iideyso waayo halkan waxaan ugu jirnaa waxay tahay dadka walaalaheen in ay wax naga bartaan annagana aan wax ka barano waxaa laga yaabaa fikirka iyo waxaan aniga ka hadlaay mid ka qiimo badan inuu hayo qof walaalkay maanta ku jiro barnaamijkan ku jiro ama webinar ku jiro marka waxaan leeyahay walaalayaal soo dhawaada mar kale waa xalwo cali oo idin leh soo dhawaada waxaan ku celinaa mikrofoonka sayid cabdi hadduu ila jooga iyo liidarada kale maasha allah aad iyo aad baa u mahadsan tahay waana idin sheegay wariinimada waxa weeye waa xirfad la barto aad baa u mahadsan tahay xalwo sida quruxda badan aad nooga dhalgisay barnaamijka qaybta dambe waxaan kaloo mahad celinayaa bulshada halka ku jirta oo dhan iyo liidarada oo barnaamijkan iyagu laftirkooda waqtigooda na siiyey iyo dhagohoodaba inay nala wadaagaan sidii xalwo ka dhawaajisay yes waa wax jira weeyaan maanta dad badan ayaa jira caalamka oo barnaamijyadan loo yaqaano cryptocurrency ama financial revolution hadda socda caalamka dhaqaale ahaan ka faa'iiday anagu targetkeena waxa weeyaan haddii ilaahay idmo inaan gaarsiino Soomaalida 3 milyan oo qof inay barnaamijkan ku jirto ha noqoto kuwa meesha ugu yar ka soo gala iyo kuwa awoodooda ay siin kartaba inay wax fiican ku darsadaan halkan waxaan uga jeedaa runtii dad badan oo liidar ah oo member shirkadda ka ah waxaadna ogaataan walaalayaal liidar marka aan leeyahay ma aha dadka shirkadda iskale iyagu waa dad Soomaaliyeed oo shirkaddani account furtay soo galay kadib aqriyay baaritaano badan soo sameeyay aqoonna la runtii kadibna go'aan gaaray maadaama barnaamijku iyagu ku qanceen in ay la sii sheergarayaan walaalahooda kale waan uga mahad celinayaa runtii waa arrin geesinimo leh arrintaas ay qaateen waxayna isugu jiraan dabcan liidaradu rag iyo haween intaba way isugu jiraan go'aankaasna waxay u gaarayaan waxay tahay bal sidee qof Soomaaliyeed oonan barnaamijkan maqlin uu ku maqli karaa anigu maanta haddaanan barnaamijkan maqli lahayn in badan oo hadda aan isla shaqeyno 30,000 qof gaaray ku dhawaad maanta ma aysan soo galin shirkaddan
wax walbana fadliga ilaahay way ilaah baa taa qadaray maanta liidarada halkan ku jira way dadka runtii abaalka iska leh oo shaqo badan qabtay iyo in badan oo boqolaal gaaraya oo meelo kala duwan caalamka jooga oo isla soo shaqeynay iyaguna oo qayb ka soo qaatay barnaamijkan dhammaantoodna waan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr haddaba haddaad tahay qof barnaamijkan ku cusub waxaad u baahan tahay bakijyada ee idin tusta xalwo oo ahaa qiimihiisa 350 ilaa iyo ay jiraan kuwa maaragtay la gadayo 750 5500 bakijyo cusub baa jira oo dhinaca sharciga ah oo price ka dhow kuwa aad taqaanaan bakijyadaas oo dhan waa kuwa aad ku soo gali karto shirkadda meesha ugu yar baad ka soo gali kartaa ilaa meesha ugu badan waxay ku xiran tahay awooddaada aniga sayid ahaan markaan soo galay account waxaan qaatay waxbaan iska barbaaray waxaan qaatay tycoonka kan 5500 ah waxaan ku gaaray darajooyin waxaan ku helay coinan badan wuxuuna isiiyay ilaa 5 level oo waxbarasho runtii haddaan markii hore qaadan lahaa package-ka yar maanta waxaan aaminsanahay meeshan joogo ma gaareen sababtoo qofka waxaa la rabaa marka aad wax fiican qaadanayso waa inaad si fiican badda u gasho oo wax fiican la taaban karo inaad qaadato marka sidaad ku heli lahayd coinan fiican ku dadaal su'aashaan weydiinaya hadda waxay tahay dadka halkan igula jira ma jiraan qof haysta 1 milyan oo coin hadduu jiro gacanta soo taago 1 milyan oo coin qof haysta ma ku jira maanta dadka aan la hadlayno taas waa kow labo haddii uu jiro qof gaari kara coinanka uu haysto 500 oo kun oo coin hana soo taagto gacanta haddii uu jiro qof milyan ka badan haysta gacanta soo taago macnaha raise your hand waxaan arkayaa gabar baa gacanta soo taagatay kulay ragga waxaa hadda businesska ka badiya in badan aan sheegayay waa dumarka marka sababtan idin weydiinay su'aasha waa idin sharxi doonaa gadaal laakiin waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo Khatra Jaamac oo ku sugan Ingiriiska kana mid ah runtii gabdhaha ugu firfircoon bulshada Soomaaliyeed oo aan ku kulanay Birmingham shirki ka dhacay Deal Shaker Expo waxayna isla markaas qaadatay xataa franchiser bay ka qaadatay maaragtay iyada noo sharxi doonta waxyaabaha ku dhaliyay coinan badan inay hesho iyo inta coin ay hadda haysato dabcan qofku markuu coin haysto maanta su'aashu waxa weeyaan intee coin baa haysataa maanta su'aashu ma aha one life miyay shaqayn doontaa miyaysan shaqayn doonin sababta waxaan idin hayaa surprise badan wax badan oo runtii idin cajab geliya ayaan idin hayaa maanta marka waxaan ku bilaabayaa Khatra inay noo sheegto inta coin ay haysato iyo meesha ay ku sugan tahay iyo sababaha ku dhaliyay inay coin ka badsato marka Khatra soo dhaw السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلام الحلوة يا سيد عليكم السلام ورحمة الله وين قاعد من Khatra soo dhaw walaal waan dhawahay walaalkay aad baan u dhawahay magacayga waxa la yiraahdaa Khatra hooyo waxaan ahay wadanka Ingiriiska degan dabcan gabadh Soomaaliyeedna waan ahay markii ugu horeysay ee shirkadan maqlay waxay ahayd 2017 bishii waxay ahayd saddexaad March bay ahayd baan malayn markaan maqlay waxaan la hadlay wiil Soomaaliyeed oo markaa in maxaan aday YouTube-ka ka arkay qof ay soo turay linka YouTube-ka ka baaray wixii wax macquul ila noqday waan sii baaray adigu wax badan oo scam weeyaan waxaan la leeyahayna way ka buuxay laakiin anu waan sii baaray ilaahay amarkiisa wuxuu meeshu ilaahay wax ka waday wiilkii baan la hadlay wiilkii baa aqalka igu yimiday uu ii macneeyay markuu ii macneeyay anu waxaan qaatay pro trader kan qaatay markaan waan ku qancanayd waan qaatay anu kolkaa waqti aan ka sii shaqeeyo maan haysano ilmo yar autism la yiraahdo xanuunada caruuraha autism-ka la yiraahdo ku dhashay baan haystay hawsha igu badnayd waa taqaanaa Ingiriiska gaaladana marka ilmo yar xanuunsanayd haysatid way maxaan kolba meel bay ku diraan training ay ku diraan home visit bay kula sameeyaan aduu waa iska imtixaan badan yihiin marka ma shaqayn hadda waxa soo baxay maxaan abaakaji waaweyn oo sida xagbada ama ayuutada loo kala qaadanay oo loo oran jiray power bank ma sha Allah kuwaasaan ka faa'iiday marka ilaa 7,000 aan gashaday oo aan ka qaatay anu kuwaan ka faa'iiday kuwaas ay hayeen marka maxaan iraahdaa ma sha Allah sidii baan marka u aaminay shirkadda waxna waan ka bartay waan aqriyay sidii baan ula socday alxamdulillah waan ku qanacsanahay imankana waan soo rogal celiyo waxaan leeyahay dad ka sii shaqaysatid wixii ilaahay kale maxaan kaaga qorana wad heli doontaa insha Allah waana ni salaamay walaalahay waa mahadsantahay walaal inta coin ah istimiyaad jeclaanayd inaad nala wadaagto
ها 560 كوين بان مركا هلاي إن شاء الله يا كيف سيدي و560 oo coin ها oo halkii coin uu dhigmo 29 ها waa aad baa u mahadsan tahay khatra runtii khatra aniga waan la kulmay waa gabar runtii gabar dhaaftay oo karti leh waxaad noo sheegtaa arrintii ku saabsan deal shakerka aad qaadatay franchiserka Birmingham markii joogno wax ma nooga taaban kartaa iyo sababaha kugu dhali inaad qaadato kaas waan tagay wallahi waa markii igu horeysay tagay deal shaker meel lagu qabanayo de waan kala socday meelaha webinaarada iyo waxa waan kala socday ma sha Allah markaa waxaan isii horta waxaan maadaama UK ka dhacayo tag waan tagay wixii waan baarba walkaan meeshii soo galeen arkay ama maalintii horeysay shirki la qabanayay wixii laga hadlayay arkay aroortii imiday wixii cajibiye igu horeeyay markaan arkay wuxuu ahaa maxaan idhahdaa shopka maxaan idhahdaa deserka ama keegaga iyo waxa iibiya oo franchise ay ku bixinayaan waxaas igu horeeyay cajibiye waxaas ahaa sida maxaan idhahdaa ma sha Allah de wax cajibiye oo hankee aan is idhigu ku anfici doonaa ayay ahayd markaas sidaasaan u qaatay walaal aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay khadra jaamac oo ku sugan Ingiriiska waxaan ku leeyahay walaal hambalyo runtii waa go'aan geesinimo leh qof 560 oo coin haysta shirkadana OneCoin maanta isweydii haddaad rabto 560 oo coin inaad hesho intee kugu kacaysaa qarash ahaan liidarada la xiriir ee magaalada aad joogto waxaa kaloo ku cadeynaysaa bini'aadamku isku si uma fikaro iyadoo hooyo Soomaaliyeed aqatro waxay ku fikirtay isla markaas deal shakerka laftirkiisa gudihiisa inay ganacsi ka samayso ee alaabo ku iibiso taana waa guul weeyaan marka waxa hadda qadka ku jira oo sidoo kale gacanta u taagan tahay waxaan weydiinaynaa su'aasha waa inta 500 ilaa 1 milyan oo coin haysata weeyaan maanta nuur xaashi kaliye oo asaguna gacanta taagtay nuur soo dhaw mudane nala wadaag marka walaalayaal ujeedka wuxuu ahaa ugu muhiimsan coinanka maanta ee shirkadani One Life waxaa hoos u dhac ku imaan doona coinanka la bixinayo sababtoo ah waxaa la soo gaaray xilligiisa shirkadu ay maalhayd suuqa maanta kulli waxaan ka mid ahay liidarada ugu sareysa shirkadani inner circle ku jira waxaanu lahayn meeting gaar ah company-ga shalay oo ku saabsanaa inner circle-lada coinanka company-ga uu bixin doono mustaqbalka dhow iyo isbedelka ku imaan doona marka waxaan isweydiinay waxay ahayd anigu sidii horta sidee coin kale ku helaa taas weeyaan maanta u maleynaya qof Soomaaliyeed inuu iga coin badan yahay waxaan u maleynayaa kulay inay jiraan waa dhici kartaa oo dadku wuxuu ma sheegaan laakiin maanta coinanka aan haysto runtii wax la xisaabi karo ma aha waxaan ugu noqotay inaan coinanka intaas la ikraadiyo waxay ahayd waxaan ogaa inaysan arrinkan sii jiri doonin sababtoo ah markaan company-gan soo galay waxaan ogaa shirkado badan oo aan raaqibi jiray tusaale ahaan waxaan rabaa inaan idiin soo qaato hal company oo aan mar walba la socday xilliga aan shirkadan soo galay maantana company-gaas anigoo la sida hadda halkan aan idin kala wadaagayo ayaan ula socon jiray adinku qudhiina waad samayn kartaan halkan aan ku jiro waa suuq weeyaan waxaad ka arki kartaa waa exchange sidaad aragtaa halkan shareerki waa ku jira company-yaasha ugu waaweyn caalamka ku jira sidaad aragtaan sayid ma aragno screen share ma aragno okay haddaan idin wadaagayo xal mahadsanid hadda waad aragtaan soo ma xalwo okay waxaan idin kala hadlayaa walaalayaal waa experience way waa wax soo maray weeyaan shakhsiyan iyo waxyaabaha igu dhiirigeliyay maanta inaan soo taaganahay in badan oo idin ka mid waxa istiraada ninka odayga ah madaalamiya sayid anigu kale shakhsiyan alxamdulillah intii ugu filayd maanta waan ka helay laakiin waxaan raadinay waxay tahay dad Soomaaliyeed meelo kala duwan jooga inay indhahooda ku furtaan go'aanka kuma habboon iyagu qaataan qofka go'aanka isaga leh waxa halkan ka arkaysaan walaalayaal shirkado waaweyn baa ku jira caalamka shirkadahaas kala duwan shareerkoodii baa ku jira wali sidaad aragtaan waa Amazon waa Apple waa Facebook Netflix intaas company aan soo taabtay inta aanu wada naqaano way macruufka ah oo ku shaqeynaya technology-ga Amazon-ka maanta wuxuu u dhigmaa deal shaker-keena oo kale weeyaan waxaad ka arkaysaa shareerkiisa intuu u dhigmo iyo shirkadda Apple shirkadaha maantadan aynu joogno qiimahoodu uu kor u kaca weeyaan Netflix muxuu sameeyaa filimada ayuu kireeyaa waana shirkad cusub 10 sano meelahaas jirta halkan waxaad kaloo ka aragtaan community-ga sida oilka
gaaska waxyaabaha dabiiciga ee anaga u naqaano wax la taaban karo Soomaalida marka tiraad company aad u soo bandhigto wuxuu ku leeyahay waxaan aqaanaa itus itabsi waa oilkii waxyaabahaas ay garanayaan sokorta oo kale iyo dhagaxda iyo maaragtay guryaha waxyaabahaas ay yaqaanaan laakiin waxaan naga maqan marka waxay tahay systemkan ee loo yaqaan technology sida halkan ka aragtaan Amazon-ki ayaa halka ku jira Apple waxyaabahan oo dhan waa technology shirkadaha ugu dhaqaalaha badan maanta caalamka oo ka dhaqaalo badan in badan waxyaabaha cunnada la isticmaalo waa technology-da way taa horta inaan fahamno aad bay muhiim tahay maanta waxaad isweydiisaa kiiladii sokorta ah waa imisa waxyaabaha oilka oo kale liiterkii oilka waa imisa buu joogaa natural gaska intuu joogaa isweydii laakiin waxaan meesha soo gelin oo marnaba aan dadkeena fahamsanayn waxay tahay cryptocurrency waa suuq cusub 9 sano hadda jira 2009 soo bilowday 10 sano ku dhaw waxaad la socotaan maanta bitcoin halkeedii shilin waxay maraysaa 3516 ay halka shilin maraysaa weli saasay tahay -0.6 way hoos dhac baa ku jira maanta Ethereum waad arkaysaan waa 112 kuwan waa exchange waa sarif kuwa yaryarka ah waxaan soo qaadanaya shirkadda laftirkeeda aniga Ethereum maanta aniga markaan shirkaddan soo galay bilow ahayd aad baan ula socday isbedelkeeda dhacageed iyo meesha ay wax marayaan maanta marka anigoo soo taagan bay waxay gaartay shilinkeedii intuu hoos ka soo bilowday 0 meelaan jirin buu wuxuu marayaa 112 euro aad baan ula socday in badan kuna akhrinayay waxa kale halkan ka aragtaan Litecoin shilinkeedu wuxuu marayaa 31 waxaad kale halkan ka aragtaan Neo oo shirkad iyaduna 0 ahayd bilo ka hor waxaan u maleynayaa adiga 9 bilood muddo laga joogo ku dhawaad meelaha inay soo baxday maanta shilinkeedu wuxuu marayaa 7 shilin buu marayaa sida Ayoto iyo Monero oo iyaduna marayso 44 Monero markii soo bixisay waan la socday pointigan rabo waxay tahay oo aan u weydiiyo su'aasha wali qofka kaliya hadda ii soo jawaabin ay tahay hal gabar ee barnaamijka ku jirta oo haysata $500,000 coin halka shilin maanta shirkaddan wuxuu marayaa 29 euro iyo 95 buu marayaa dadka marka su'aasha ka qaba oo dooda ka qaba digital currency-ga aan fahamsanayn su'aasha waxa weeyaan shirkadda ugu yar markaan soo qaato halkeedii shilin baa 44 wuxuu marayaa dollar anaguna waxaan raadinayna waxa weeye halka shilin inuu gaaro 29 waa 29 euro iyo 95 maxaa keenay inuu qiimaha kor aado dad badan markii company-gan lacagtiisa gataan qiimaha kor buu aadaya bitcoin waa sidoo kale 3500 su'aashaan weydiinay marka waxay tahay waxa la taaban karo oo taqaanaan ama kalluun ha noqdo ama xoolo ha noqdo ama guryaha ha noqdo ama dhagax ha noqoto waxay noqotaba waa la taaban karaa waa waxa taqaaniin laakiin is weydiisan inay jirto waxaadan taaban karin oo technology ah oo ah allama al-insana ma lam ya'lam bini'aadamka ilaahay wuxuu siiyay awood dheeri ah in ay jiraan miyaadan garanaynin waxaad arkaysaa community-ga aad taqaaniin waa kan sheerarkii aad taqaaniin maanta shirkadii ugu waaweynaa waxaad haddaanu dhahno shirkadaha la taaban karo waxyaabaha soo saara cunnada ma ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa waa technology kambaniyasha ugu sarreeya maanta suuqa adduunka waa technology deal shaker Amazon-kaas marka waxaad ogaataan shaqadoodu dhan waxay tahay inay wax kala iibiyaan shaqo kale ay leeyihiin ma laha shaqadoodu dhan waxay ku kooban tahay alaabta inaad online ka iibiso company-gaas hal company wax uu gaar u leeyahay ma jirto halkan waxaa marka ku jira dukaankii Amazon-kii baad halkan ka arkaysaan oo qofka markuu rabo inuu alaab gato uu ka gadan karo online-ka dukaankaas qiimihiisii baa maanta ugu sarreeya caalamka waana technology sababta keenta marka waxay tahay dadkii adduunka joogo dhan waxay rabaan in la fududeeyo noloshii oo qofka alaab rabo inuu dalbado mobilkiisa ka dalbado in badanna waxaan ku celcelinay bini'aadamku meesha u socda inay tahay fintech wax loo yaqaan ama technology marka in badan dadka Soomaaliyeed waxay u badan yihiin liidaradii waqtiga siinayay waqtigoodii uga soo jaray maxaa la yiraahdaa time-koodii adduunku waxa ugu qaalisan qofka bini'aadamka waa waqtiga raba in ay iyagu wax baraan maanta oo dhan intuu wax baran lahaa su'aalo soo celcelinaya markaynu baaritaan badan sameeyno waxaan ogaanay dadka ugu su'aalaha badan waa dadka aqoontooda ugu yar tahay maxaa ka wada aqoonta ugu yar tahay maaha qofka inuusan jaamacad ka soo bixin laakiin barnaamijkeenu ka hadlayno qofka markuusan aqoon u lahayn uusan baarin ama qofka isagoon wixii fahmin iska dhaleecaynaya waxaa fiican qofka inuu marka hore wax barto waxaynu ka hadlaynaa waa revolution weeyaan ma aha meesha debate ma aha inaad qofka liidarka aad ku celceliso su'aalo badan ilaa mararka qaar xataa liidaradu dadka qaar ay isweydiiyaan ba qofkani maxaa maaragtay energy-ga xaguu ka keenay marka dhinacaas waa Amazon-kii waxaan u soo qaadanaya Amazon-ka waxaan ka aragnay suuqii hadda aan ku wada jirnay oo live-ka ahaa ayaad ka aragteen dhammaantiin oo uu ugu horeeyo suuqa koowaad uu yahay su'aasha marka aan qabo waxay tahay inaad dhammaantiin fahamtaan Amazon-ku muxuu ku shaqeeyaa dollar bas buu ku shaqeeyaa iyo lacagaha caadiga ah
si kale haddaan u dhigo Amazon ka haddaad maanta raadisid waxaa jira wax la yiraahdo Amazon coin baa jira oo aad isticmaali karto hadda halkan ku qoro Amazon coin baan ku qorayaa halkaas waxaad ka arkaysaa Amazon coin iyagu qudhooda waxay leeyihiin lacag la yiraahdo Amazon coin ودمعسين هي كمباني لفتكيس إنه كوين سمايستو لكن كوين كانت أركز معها كوين ديجيتال كارنسي أهم وحلو كلا قطه وكوين اللي راه 5000 أمازون كوين وحنقول جنسة أفرت الإيكو كريبتو كارنسي معها لكن وكوين فيرتشوال ويا طابن كرو لكن واحد بتاع شركة دني إنها سمايستو ديجيتال كارنسي اللي دمعسين كريبتو كارنسي شركة ده بدنا واحد جرى عالم كده الدنيا لكن مهمة أنا قد موضوعي كبحين وحن ربع إن إذن لو ذاقو حدي ما أنت الشركة اللي راه بيتكوين oo aanan lahayn wax la yiraahdo suuq wax lagu kala gato lacagteedu dhan ay tahay maanta gado berisi iibi markay ku kacdo ayaa qiimaheeda 3500 mar waxaanu ka hadlaynaa anaga marka waxay tahay company la yiraahdo One Life oo sameeyay website ee soo gali karto in ka badan adduunka dadka meel kasta jooga 2 bilyan iyo bar oo qof loogu tala galay inay wax kaga adeegtaan waxa kale halkan ku haysanaa lacag cryptocurrency ah oo website gaar ah leh oo digital currency oo sharaxaysa fusionka ujeedkeedana loo ku sheegaysa in loogu tala galay 2 bilyan oo qof ee meelaha kala duwan caalamka jooga in loogu tala galay in ay baahidooda dabasho loona sameeyay 120 bilyan oo coin waa presentation kan qabanayay ku jirtay kuma noqonayo website kaas waa meesha lacagta laakiin waxaan rabaa inaan dadka u sharaxo hal arrin maanta company-ga One Life idin kama iibin wax la yiraahdo coin One Life waxa idin ka iibisay wax la yiraahdo education learn today lead tomorrow why sababtay u sameysay waa maxay waxay rabtaa adiga horta inaad noqoto qof dhameystiran fahamsan waxa uu yahay financialka lacagaha iyo baahida keentay inaad barato maanta markaad ogaato hal family ayaa sameeyay lacagaha loo yaqaan digital currency one family hal family ba iskale adduunka dadku ugu dhaqaalaha badan ee maanta caalamka oo dhan haysta waa 1% boqolkiiba hal way lacagtan dollarka iyo bangiyada aad arkaysa maanta halkaas reer ee adduunka meel kasta bank kasta ee ku yaala reerkaas baa iskale waa reer Mareykan waay marba magacooda inaan xuso family kaas Rothschild baa yiraahdaa haddaan idin taabto waad baari kartaan Rothschild family waxay sameeyaan lacag kastoo bangiga u baahan yahay ayaga deemiya company-ga markuu wuxuu ku barayaa absida aad ku jirtaan ama boxka aad ku jirtaan oo ah waxaan ka baqaynaa inaan lacagihii cashka weyno waxaad ogaataa horta cashka qof adigoo kale ah 9 bilood ku dhashay ayaa bangiyada iyo cashka idin sameeyay company-yaasha marka waxay rabaan waxay tahay dadka dhan waxa idin ku qufulan coin baan rabnaa cash baan rabaa inaan ka sii dhigto ogow coin kan aad leedahay cash baan ka sii dhiganayaa dad baa sameeyay dadkii sameeyayna waa dad adigoo kale ah maantana adduunka oo dhan iyagu u shaqeeya waxyaabahan hadda shaqadan aad arkayso ee 10 saacaad shaqeynaysaan ee nafta idin kaga baxday dadkaas lacag ay sameeyeen baad ku shaqeynaysaa oo timekaaga dhan noloshaada dhan aad siisay waxa laga yaabaa qaarkiin inaad xataa dhaqaale fiican aad keenin adigoo faqri inaad ku dhimataan ayaa dhici karta waxaan ka hadlaynaa marka waxay tahay sidee looga bixi karaa barnaamijkaas loo heli karaa bulsho dhaqaale haysata aqoontooda koreyso ka tarjumi kara horta maxay tahay coin iyo cryptocurrency Dr. Ruj waxa idin rabta waxay tahay waa inay wax idin barto marka dadka ku jiifa aawa ee dhahaya waxaan maanta gadanay coin ma aadan gadan waxaad gadatay waa educational package haddii noqoto xataa package-da waaweyn shareka mar walba waxaad gadateen educational package kaas kadib marka waxay idin ku xireysaa one coin dhinacii lacagta oo markaas waxaad haysataa adigoo qof wax bartay ah coinanki account-kaaga kugu jiraan markaad account-ki coinanka ku soo galaan dhammaantiin waxaad leeyihiin bank statement-ga meesha aad ka daawaleedo kale sida bangiga One Life ayaad galaysaa account-kaaga waad ku qoranaysaa username-kaaga iyo password-kaaga lacagtaadii iyo qiimaheeda halkaas aad kala soconaysaa la saddexdaas arrimood waa muhiim dadku inay fahmaan markii ugu horreysay company-ga One Academy iyo coin-ku soo saaray waxa lagu soo xijiyay One Life ma uusan jirin markaan soo galay shirkadda hal website baa jiri jiray la yiraahdo onecoin.eu baa jiri jiray website-ka design-kiisi waa la bedelay wax badan bay shirkaddu horumarisay dadkii waxaa loo sameeyaa KYC kadibna waxay soo sameysay waxa loo yaqaano deal shaker-ka sidaad halkan ka aragto deal shaker-ka waa account adiga kuu furan oo aad ku leedahay page oo aad ku xayeysiin karto haddaad leedahay guri ama kaba soo qaad lifestyle buu ku siinaya gaari baad haysataa gaarigaaga waxaad doonaysaa maadaama aad safar aadayso bil holiday ah intuu guriga iska ooli lahaa baad rabtaa inaad kirayso maxaad samaynaysaa marka si aad ku kirayso waxaad soo gelinaysaa page-kaaga waxaad leedahay gaarigayga waa iga kiro bishaas lacag baa ku soconaysa qof baa kaa gadanaya sababta ummad dhan baa arkaysa meel kasta joogta ama haddaad joogto Yurub ama haddaad joogto qaarad kale
haddaad tahay qof company iska leh ama shirkad ee doonaya coinka company inuu isticmaalo ma rabna inaan maqalno mar dambe lacag cash baan rabnaa waa inaad fahamtaan in uu coinku yahay lacag haddaad rabtid cashka hadda jeebka kugu jira hayso laakiin waxaan rabaa dadka exchange-ga sugaya exchange-ga wuu furmaya laakiin wuxuu furmayaa xilliga munaasabka ku ah ee usability-ga ama lacagta shirkadana la isticmaalo halkan waxaad ku arkaysaa shirkado badan oo baabuurta iibinaya oo ku kala gadanaya coinka lacagtiisa ayaad ku arkaysaan shirkadahaas waxay doonayaan waxay tahay alaabtooda markay kaa gadayaan in ay maaragtay helaan customer maanta company kasoo baabuur sameeya wuxuu ku kala dhaqaale badan yihiin ku kala technology fiican yihiin horumarka ugu kala sareeyaan company-yaashu waa customerka ogow company-gan customer buu haystaa maxaana customer kuu keenaya waa systemka aad ku shaqayso maanta Amazon maxaa gaarsiiyay dhaqaaleeda number 1 inay noqoto systemka haysata ayaa system la taaban karo marka company-gan deal shakerka wuxuu xamili karaa adduunka oo dhan 196 wadan productigooda iyo dukaanadooda hatta dukaanada local store-ka ayaad soo gelin kartaa haddaad gadayso dharka haddaad gadayso sida tooyaasha caruurta laptopyada ama kombiyuutarada haddaad iibinayso waxyaabaha jewelry-ga ah baabuurta maqaayadaha wax allaale iyo wixii aad gadayso haddaad tahay ma aha qasab inaad shirkad leedahay qof shakhsi haddaad tahay hataa iska raba inaad iska sii gado waad soo gelin kartaa qofka kugu dhow baa kaa gadanaya marka tan aan rabo waxay tahay maanta inaan idinkugu hambaliyay dhammaantiin Soomaaliya in ay leedahay maanta deal shaker in la sameyn doono website Soomaali ah oo luqad laga dhigi doono Soomaali qof kastoo Soomaaliyeed meel kastoo Soomaaliya ka joogo oo wuxuu doono ka gadan karo hadda website-kan kuma aanu jirin maxaa keenay in badan baa munaaqasho iyo wada xaajo shirkadda noo socda maxaana keenaya waxay tahay maadaama new deal shakerka uu ku shaqeeyo wax la yiraahdo Jumio oo ah KYC-ga KYC-gu waa know your customer waa ina qofka customer-ka shirkadda ku jira baasaboorkiisa iyo address-kiisa in la hayo aad bay muhiim u tahay marka halkaas walaalayaal waa la xaliyay oo hadda waxa laga dhigay manual in lagu sameyn doono marka shirkadaha dhan ee halkan ku jira dad badan oo ganacsataha ku jira waan ka arkaa Soomaaliya jooga qaybaheeda kala duwan haddaad tahay qof ganacsada ah oo aad doonayso company-gaaga inaad ku xayisiisato doonayso inaad shirkadaada coinan badan hadda aad u hesho qiimo yar aad ku hesho hadda ayaa la joogaa xilligii munaasabka ahaa deal shakerkuna diyaar yahay midna ogaada systemkani markuu isqabsado 100% company-gan dhaqaalihiisa waxaa lagu qiyaasayaa trillion inuu gaari doono sababtoo ah hal qayb kaliya ma aha qaybo kala duwan buu leeyahay coinkooda kaliya wuxuu yahay 120 bilyan oo halkii coin u dhigma in ka badan 29 euro iyo 95 waxayna haystaan dad maanta 3 milyan iyo bar ka badan 40 milyan oo account bay haystaan waxaana lagu qiyaasayaa tirada dadkan shirkaddan maanta memberka ka ah inaysan ka yaraan 40 milyan sababtoo ah qof walba account-ka hal xab ayaa ku filan inta kale uu haysto dad ehelkiisa abuu siin doonaa lacagtana siin doona kuna baryi doona inay ka gataan marka anigaan idinla hadlaya waxaan haystaa in ka badan 190 account liidaro badan halkan ku jira waxaa jira account badan haysta hadduu jiro qof 10 account haysta waxaan dhihi lahaa gacanta soo taago aynu ku aragno hadduu jiro weli qof sidoo kale million coin haysta ama 500 kun coin haysta gacanta soo taago haddii aadan haysanina su'aashu waxay tahay maxaa kuu diiday inaad coin badan hesho haddaad marba shirkadda aaminsan tahay sababtoo ah xilli waxaan soo martay aan coin badan idin offer garanayna meel kasta aad joogtaan waxaan rabaa qaybta ugu dambaysa aan rabo inaan ku soo qaato waxaan leenahay qayb foundation ama charity ah maadaama dad badan oo Soomaaliyeed ay jiraan barnaamijkan ku jira dhaqaale fiican ka helay insha Allah ta'ala ujeedkeena iyo hadafkeena wuxuu yahay kaliya inaynu noqon dad faa'iido raadiya inaan aakhiradeena ka fikirno caruurta Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee agoonta ah laga fikiro sida loogu sameyn lahaa waxbarasho iyo caafimaad iyo in la dhaqaaleeyo waa kuwa agoonta ah iyo kuwa dayacan meel kasta ay joogaan barnaamijkan qayrigana waa inoo wada furan insha Allah haddaad marka hayso talo ama fikir su'aal dambe way dhamaatay wixii talo aad hayso ama fikir trainingka deal shaker waxa qabta xalwo iyo sharmaarke soo gudbi haddaad rabto in account aad ka furato magacaaga soo gudbi account lagu furo haddaad rabto inaad memberka OneCoin ka mid noqoto ama aad ku soo ziyaadiso tiro ama aad ku soo ziyaadiso dhaqaale qayb ka noqo haddaad tahay qof doonaya cash meeshan cash xilligiisa ayuu imaan doonaa shirkadda ayaana ku dhawaaqi doonta laakiin dhammaantan waxaan nahay family la yiraahdo family OneCoin waxaan aaminsanahay inuu yahay coinka lacag waxaan rabnaa marka kii dharka gadayay kii cunada gadayay iyo kii baabuurta gadayay intaba inay coinka aqbalaan maanta Soomaaliya dhan waxaa ka shaqeynaya coinkaas marka walaalayaal intaas waxay ahayd visionka shirkadda aan rabo inaan idin kormaro waxaa inoogu jira liidaro badan oo aan jeclahay inaan dhammaantood ku soo dhaweyno aad iyo aad baan u mahadsantihiin waqtigiina marka xalwo ayaan ku celinayaa mikrofoonka oo liidarada dhammaan casuumi doonta qof kastoo su'aal qaba liidarada ku noqon doonta insha Allah xalwana waxaan ka codsanayaa haddii dadka qaar su'aalaha ku taagan yihiin inay ka qaataan
aad iyo aad baa mahadsantiin mar kale baagtii xalwo waad mahadsantahay mar kale aad baan kaaga mahad celinahay sayid sida wanaagsan iyo waxyaalaha dheeraadka aad nala wadaagtay oo in badan ogeen cryptocurrency iyo suuqa caalamiga maasha allah waan kaaga mahad celinaynaa runtii barnaamijkan mar walba oo aad qayb nagala noqoto wax badan ayaan kaa baranaa qofka liidarka ah ama hogaamiyaha ana waa hogaamiyaha bulshadiisa ku bedela waxbarasho bulshadiisa ku bedelo horumar ah iyo mustaqbalkooda ma aha hogaamiye qofka bulshadiisa baro sida u dagaalamaan sida wax u burburiyaan baro waan kaaga hambaleynaynaa runtii waxaan rajaynaynaa anagana sidoo kale leadership training inaan wax badan kaa barano soomaalida waxay tiraahdaa waaramaysa war ha kaa haro waxaan rajaynaynaa war badan kaa hari doono walaalayaal liidarada ayaan marka hore isku hormarayaa waxaan siin doonaa hal iyo labo si marka ay noola qaybsadaan liidarada talo ma rag kaliya dumarkana waa u baahanahay walaalayaal taasaan sila Australia maya waa soo jeedaa walaalo waa idin dhegaysanayay waa idin salaamay dhammaantiin inta sayid u sarreeyo ilaah baa sarreeya xalwo sharmaarke mambariska liidarada kale dhammaantiin waan idin salaamayaa salaamullah sidoo kale annagana waa ku salaamaynaa soo dhowo maasha allah waa dhowahay walaal alxamdulilah su-aal yar baan waxaan weydiinayaa ninka la yidhaahdo sayid wuxuu yidhi war farxad le baan idinla wadaagaya warkaa farxadda le baan caawa dhan u fadhiyey waxaan kaloo weydiinayaa dadka istaatarada loo furay maxaa lagala doonay ay ka faa'iidayaan istaatarka anigu waxaan u aqaanay in akoonka lagu lamaaniyo laakiin istaatar akoona baa isoo galay oo tiimkaada ka mid ah miya haa qof tiimkaada ka mid ahaa loo furay haa waa gartay waa qaadan waaye weliba markii hore oo soo celiyey oo mar labaad laygu soo celiyo anu istaatar socda ma aqaani istaatar akoon ku lamaansan baan aqaani maxay tahay xaaladda talo calaa iyo taxaal way socotaa anabi waan ku salaamayna marka hore marka xigta su'aashaada waxay qusaysaa waa mid qaas ku ah oo network-ga qusaysa qof walbana walaal wixii awoodiisa ah ayuu gadanayaa marka qof raba inuu starter gato lama dhahayo waxaad gadataa package weyn marka hadduu qofkaasi package weyn qaadan karo intaad la xiriirto ama aad training siisa ama webinar gaar aad u gasho kula talay package-yada aad la jeceshahay laakiin qof walba iyo awoodiisu qaadanaya walaal marka insha Allah wixii su'aal ahna gaar soo wici kartaa way soo weydiin kartaa insha Allah ama fariin ii dhaaf ayaa waayay warkii farxadda lahaa baan sugayaa waa ma sha Allah waa mahadsantahay ana warka farxadda lahaa waxaan u maleynayaa reewanin wuxuuna markaas waa deal shakerka Soomaaliya oo mar dhow aad arki doontaan isagoo Soomaaliyeedsan insha Allah taala qaybo badan ba inaad heli doontaan mar rabo inaad hormaco laakiin deal shakerka Soomaaliya oo mar dhow ka shaqeyn doona taasay ahayd ujeedka oo ku soo dhawaaqay laakiin macluumaadka iyo tababarka liidarada bixiya insha Allah liidaraas hala la soo xiriira ilaahay insha Allah taala liidarada naloo tilmaamo hadde canab liidarada aniga kamid ah sharmaarka kamid insha Allah waad nala soo xiriir kartaa luuqan ka wada hadli karnaa insha Allah waayahay walaalayaal waan idin salaamay mahadsantii aad baad u mahadsan tahay canab runtii waxay kamid tahay liidarada hablaha Soomaaliyeed shirkadda one life dad badan baray dad badan kusoo daray in badan oo muddana kasoo shaqeynay sida dadka ay uga faa'iideysan lahaayeen runtii mararka qaarna aan badhihi karo anigu hataa waa iga nasiiban sababta waxay ka qayb gashay eventkii ka dhacday Australia qiimaha badan waa u mahad celinayna walaasheen waxaan leenahay guuleyso qof walba dabcan hadafka uu leeyahay haddii uu dadaal sameeyo wuu gaari doonaa waxaad siin doonaa insha Allah Hello ha Hello حلو haye faadum soo dhow ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قبلي واقع دمك جيسنا صوم وجيسنا مرة دي حلوة ما شاء الله ها دمان والد وصام يا السيد حلو دمان انت ماشي كنت تودن waxaan doonayaa su'aashii sayidina maxaa u diiday dadka qoyanka anagu sanad baan ku jiray wax yar la haddana fursada arkin ba ka waran taa la wadaagayaba qofku haddaanu arkin liidaradu noo sheegeen baakeejadan yaryar la gato ka waran iminkuun aragna weliba xalwo la soo xidhiidhnay markaan xalwo doondoonna helay
kadibna aanu helay marka fursadaha dee nasiibku waa waqtigan na soo gaarsiiye mooye laakiin hore umaanu arkin fursada okay fahduma waxay ila tahay su'aashaasi ahayd koyna badan maxaa loo Soomaalida maxaysan u helin ayay kamid tahay yaha fursada hadaan helin ba ka waran arkin ba package matan wixii markii la fahansan yahay maalin ba waxbaad fahmaysaa Soomaha wax badan ba wax ka baranaysaa laakiin iminkuun baanu aragnay hore umaanu arkin intii waxaan package-yada gadkun baana lahaa marka ma baanu arkin ana wax dhamaaday dee qofku calaf ku leeyahay iyo wixii dambeena soo كل waxay la السلام عليكم السلام عليكم السلام wala shay aad u mahadsantahay waxay la tahay liidarada Soomaaliyeed inta way dadaalaan dadka way u sharaxaan sida uga faa'iideysan lahaayeen sida lagu iibsan lahaa laakiin waxaad moodaa dhinaca aqoonta ayaa gaabinaysa sababta waxay tahay meesha ugu muhiimsan oo horta warbixinta lagu kala qaato la ogaado waxay tahay in laga soo qayb galo webinaarada shirkadan runtii aniga xalwa waxaan ku soo biiray bishii May sanadkii 2018 runtiina maanta ku soo biiray ilaa maanta waxaan qabanaynay anigoo walibana aanan ku jirin muddo bil ah ayaan ka qayb qaatay inaan qabano webinaarada dadka aan gaarsiino barnaamijkan ama aan duubno fiidiyoyo sida uga faa'iideysan lahayn ilaa maantana waan wadnaa haddana weli waxaad moodaa dadka webinaarada ma soo galaan qofka haddii uusan webinaarka soo gelin macluumaadka la bixinayo uusan fahmin fiidiyoyada la duubo uusan daawanin wax badan ma ogaan karo shakhsiyaad markay noqotana liidarka wuxuu keli uu caawin karaa dadka isaga uu yaqaano inta qof uu keeno ka hooseeyo inuu yiraahdo package-kaas idin ku haboon iibsada laakiin marka ay noqoto dadka inay macluumaad guud helaan waa inay liidarada la soo xiriiraan webinaarka inay kasoo qayb galaan sharaxaada guud kadibna haddii su'aal ay qabaan ay si gooni ah ula xiriiraan dad badan ayaa waxay leeyihiin liidarada nooma soo jawaabaan haddii aan u dirno fariin yes liidarada way mashquulsan yihiin laakiin muhiimadda waxay tahay adiga haddii uu kuu soo jawaabi waayo sayid ama sharma arke uu kuu soo jawaabi waayo waxaa laga yaabaa inaan aniga kuu soo jawaabo oon joogo su'aashii aniga haddaan garan waayo waxaa laga yaabaa inaan aniga weydiiyo sayid ama waxaa laga yaabaa inaan ka weydiiyo email waxaa laga yaabaa Facebook inaan uga diro fariin haddii WhatsApp uusan ku jirin social media maanta isticmaalna way badan yihiin marka liidarada waa shaqo badan yihiin howl badan ayay hayaan dad badan ay isku xiraan su'aalo badan ay ka jawaabaan tababaro badan ayay diyaariyaan laakiin haddana idinka maaha inaad quusataan waa inaad su'aalaha weydiisaan dadka in la sharaxo xageen coin badan ka helaya qofka maanta ani isoo weydiiyey coin badan xageen ka helaya daqiiqad kuma qaadanaysa inaan ku xiro meesha coin badan uu ka helaya marka insha Allah dadka waxaa laga doonaya su'aalaha muhiimka oo ah horumar kale xageen coin badan ka helaya xagee baan waxbarasho ka helaya one academic markaan gala maxaan baranaya su'aalaha muhiimka ah laakiin waxaad moodaa su'aalaha ugu badan ee waqtigoo dhan annaga naga qaaday inay yihiin goormal cash helaya waxaan rabaa asxaabteyda ama bulshadayda Soomaaliyeed lacag waad haysataan lacagtaad haysataan waa coin cash waxba uma baahnidin waxaan siin doonaa insha Allah liidarada 2 iyo 1 walaal dhammaan waa idin salaamayaa bahda one life oo dhan kuwa hajar soo jeeda ee ma garanaysaa waa beriga taagan iyo kuwa barqa u tahay kuwa duhur u tahay dhammaanta iyo annaga 9kii galabnimo ay noo tahay oo 20 daqiiqo dhiman marka dhammaan waa idin salaamayaa arrinka hadda maaragtay cusbaa xagga dhiir sheekarka Sayid Cabdi nala wadaagayay runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Sayid Cabdi waa wax farxad leh waxaan u fahmay dhiir sheekarkii horta Soomaaliya marka u horeysa inay tahay approved ama wax ma garanaysaa la ogolaaday marka labaadna wax haddaanan khaldanayn waxaan moodayay inuu yidhi dadku waxay kaga faa'iidaysan doonaan afkooda af Soomaali sidaasaan moodayay taasina hadday jirto ay sidaa tahayna waa mahado fara badan oo boqolaal aan u jeedinaya isaga iyo intii kale ka shaqaysay ee ku gacan siisayba waan filayo sharmaarka inuu xataa gacan weyn isaga laftiisu ka geystay turjubaadda cid kasta ka timaado laakiin intaa keliya in maaragtay la meel mariyo wax sahlan maaha waana su-aashay canab ku soo celcelinaysay maantana ballanqaadka sayid ku jirtay marka maasha allahu aad iyo aad baan horta u mahadinayaa madaalaha xallo cali aad baad u mahadsan tahay walaal sida ma garanaysaa waxaan marka ka xumahay maanta inaadna siisay presentationkii inay qabtaan reer Kismaayo aniga iyo waliba Yusuf aadan Nimcaale runtii anigu xilliyadii aad maaragtay hawshaas soo propose garaysayna iyo waqti yar ka bacdi maxkamadeed iyo waxbaan iskaga jiray oo arrin guryo iyo waxaasa
malaha yuusufna waa ka cudur daarto oo iska hawl batay runtii shoobna wuu gadaa oo maaragtay aad u dad badan intaa ka bacdi insha allahu hawshaasi waa hawl noo taalla ma garanaysaa liidar ka dhuuman karaana ma jiro oo waa inuu liidarku xilkiisa iyo mas-uuliyaddiisana qaataa dadkana la wadaagaa waxyaabaha uu ka soo bartay one life waktigiisana uu ku soo qaatay intaa haddaan ka gudbo walaalaha dhammaan soomaaliyeed bahdan one life waxaa maaragtay aan u sheegayaa oo aan maanta doonayaa inaan u caddeeyo inaan hayo coinan gaaraya halkii sheer 5,000 oo coin oo maxaan ku idhaahdaa la gadayo 1,400 oo dollar hal 5,000 oo coin haddii lagu dhufto maanta 29.95 euro sidaa filayo waxaan keenayaa inay tahay 156,000 oo euro ama wax ku dhow dollarkana ay kaba sii badan tahay haddii loo bedelo hase yeeshee coinkaas ayaa wuxuu yahay waxa macnaha leh ee shaqayn doona oo hadda sida ma garanaysaa lacagahan annagu digital ahaan aan isticmaalno isna u sii shaqayn doona kaliya lagu deganaan doono dad qofka isla hadhow kaash garayso ama kaash ka dhigana waxaan maaragtay u sheegayaa inuu yahay ka la isugu iman doono ee qof waliba uu leeyahay coin ma haysaa ama ma haysataa lagu faani doono laakiin dadka waxay uga caddahay inay yidhaahdaan waa kaash garaysanaynaa marka aan dib ugu noqdo 5,000 coin qofkii u baahan ee coinku ku yaraa waxaan u hayaa waqti uu ku gadan karo oo ku diyaarsan karo iyo inta sheer uu doonayo hadduu hal sheer gadanayo waa 1,400 waana 5,000 oo coin buu helayaa shahaadadii baa la siinayaa oo markhaatiyo leh oo sheerkiisii ku cad yahay oo maxaan ku idhahaa wixiisu ay clear yihiin markay suuro gashana waxaa weeyaan coinkiisa uu loo soo wareejin doono oo isagu ma garanaysaa shahaadadana laga kansali doono coinkiisana lagu wareejin doono haddii la yidhaahdo qofkii 10 sheer gadanaya oo min 5,000 waa u furan tahay kii 2 gadanaya kii 30 gadanaya kii awoodiisu ay hal sheer noqoto 5,000 coin ee 1,400 waa la wadaagaya qof kasta berri iyo saa dambe iyo taka dambaysaba wuu nagala soo xiriiri karaa waa u haynaa taas waa masalada labaad waxa iyana barbar socda packagekii education packagekii isna halkiisii weeye oo qofku coinka marka uu helayo waa inuu education package u haysto berri meeshii uu ku isticmaali lahaa lacagtiisana ay soo fadhiisan lahayd loogu soo shubi lahaana waa inuu leeyahay packageyada kala duwan ee kambaniga waa inuu wax ka haystaa oo uu maaragtay wax ka leeyahay oo lacagtiisa ha dhigto waxaa kale oo maaragtay saddexaad oo aan la wadaagayaa walaalaha sida hadda uu noo sheegay sayid cabdi deal shakerkii oo wax badan laga bedelay oo new platform la sameeyey oo adduunka oo dhan lagu xarayn karo hal mar oo wax laga gadanayo gudihiisii oo shilinkaaga aad wax kaga gadanayso oo alaab ganacsi aad ku dirsanayso oo ku gadayso oo ku soo gadanayso haddii ilaahay ku roon yahayna adigu aad wax ku xayeysiisanayso aan jeclahay in hadalka haddii aanan si khaldan u fahmin weliba af soomaali lagu tarjumay inuu shaqaynayo shilinkaagana aad maaragtay wax kaga gadan karto waxna kusii iibin karto taas baan ku celcelinayaa waa mahad ilaahay waxaanaynu nahay waddamada ugu horeeya sida aan qabo ee hadda xagga deal shakerka wax badan uu ka tari doono haddeerna nasiib uu helay in kambanigu uu ogolaado oo approve siiyo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullah marka waxaa marka barnaamijka qaybta hadda sayid uu ka hadlayo platformka soomaali ahaan gaar ahaan dad waddanka soomaaliya uu yeelan doono hadda norway oo kale aan norway deganahay norway deal shaker wuxuu leeyahay platform ayaga u goona ah oo calanka norway u saaran yahay oo norway reer norway dadka ay leeyihiin marka soomaalina saasoo kale loo sameyn doonaa marka soomaaliya sidaa loo sameeyo kan norway hadda waxaa lagu qori doonaa luqadda norwejiga kan soomaaliyana haddii fursadaas ayaga ay qaataan ay ka faa'iidaystaan waxaa lagu qori doonaa fursadda luqadda soomaaliya tusaale ahaan clixi halkaan markuu ku leeyahay halkaan riix ayaa lagu dhihi doonaa
meeshan waa profilekii oo kale markii lagu leeyahay waxay noqon doontaa macluumaadka ayaad ku jira halkan kilig macluumaadka ayaad siinaysaa waxyaalahaas oo dhan waxaan insha allah laga dhigi doonaa af soomaali laakiin de waxaan waqtiga qaadanaysaa process ayuu qaadanayaa dadkii loo qorshay inay ka shaqeeyaan dad IT-ga aad ugu fiican labada luuqadood yaqaana insha allah ayaa loo diyaarin doonaa waxay la tahay walaalkay su-aashaas inuu ka qancay jaamac si fiican leader yes waa mahadsan tahay waxaad ka mid tahay dadka tababarka qaata soo maha si fiican waa la socda casharada dhan ku taxana leader maasha allah wixii su-aalo ah ee dhiil sheekarka qoseeyo oo dhan casharada dhiil sheekarka insha allah 2 habeen ayaan isbuuca qaadanaa halkaasaan ku qabsan doonaa waana loo baahan yahay dhiil sheekar su-aalaha ku saabsan waqtiga cashirka marka la gaaro aan qaadano 30 daqiiqo ugu horeysa presentation aan qaadana qaybaha dambena waxaan qaadnay su-aalaha marka wixii su-aalo ah muhiim ayay noo yihiin haddii aan ka mid nahay dadka tababarayaasha aniga aan ka mid ka ahay halkaas marka insha allah wixii su-aala soo diyaariyo dhammaan inta imaqlayso oo ku jirta barnaamijka tababarka new dhiil sheekar training ka mid ka ahna insha allah waa soo qaadaa dhigi doona su-aalahaas okay waa soo gabagabayn doonaa cashirka maanta maasha allah dad badan ayaa kasoo qayb galay oo ka faa'iidaystay presentationada iyo sidoo kale su-aalihii iyo wixii markaas ay nala wadaagan fikrada ahaa liidarada dhan waa u mahad celinaya anoo soo gabagabayn doona waxyar kadib waxaan ku noqonaa sayid haddii kelimad ay u hartay si markaa uu noola qaybsado haddii ay u harin insha allah uu yidhaahdo go ahead si aan markaa barnaamijka qaybihiis dambe u galan usoo afjaro sayid soo dhow walaal waa mahadsantahay xalwo aad baan ugu mahad celinayaa walaalaha meesha ku jiray oo dhan waxaan u malaynayaa kelmad iima harin marka insha allah adaan kugu soo celinaya walaal noo soo gabagabayn okay aad baad mahadsantahay labadii saacadood ee aan barnaamijka ku guda jirnay waxaa ka hartay 10 daqiiqo 10 minutes ayaa ii hartay insha allah 10 daqiiqo waxaan rabaa inaan dabcan la dardaarmo bulshadayda Soomaaliyeed gaar ahaan reer 1.1 dadka shirkadda ka midka ah ha noqdaan liidaro marka liidar lagu leeyahay haddii aad shirkadda kusoo dartay 2 qof oo ah your right side and your left side labadaada dhinac aad kusoo dartay mas-uul ayaa tahay sababta maxay tahay labadaas qof ee shirkadda aad kusoo dartay adiga ayaa mas-uulka oo keenay ilaa ay ka bartaan barnaamijkan waxbarashada ay ka galaan barnaamij ay ka fahmaan mas-uuliyad adiga ku saaran waay ilaahi subxaana watacaala wuxuu yidhi qof walba mas-uuliyadda aan u dhiibay aniga waan la xisaabtami doonaa maalin maalmaha ka mid a kii dayacina abaalmarinteeda ayuu heli doonaa waxaan rabaa marka dadka liidarada ah ee shirkadda ku jira ee barnaamijyada shirkadda aan ka warqabin ee aanan qaadanin dadkoodana aanan u sharixin lacagta inta ay ka qaadan shirkadda kusoo diraan waa lidinla xisaabtami doonaa dadkiina waa inaad caawisaan waxaan leeyahay waayo sababtoo ah qofkii waxa uu u baahan yahay shirkadda markuu soo gala inuu fahmo siduu accountkiisa u geli lahaa in la baro waxbarashada siduu u heli lahaa in la baro webinaarada markuu siduu usoo geli lahaa in la baro lagu xiro adiga su-aalahaad garanaynin aad u gudbisa liidarada kale qolalka aad soo dhigtid luuqa kala hadashid mas-uuliyad ayaa ku saaran qofkaa markuu wax barto barnaamijka u dhexgala kaagama baahna adiga markaa midda kale dadka liidarada waxaa laga rabaa haddii aad doonaysa inaad liidar noqotid barnaamijka aad ka faa'iidaysatid waa inaad heshaa dad kula shaqeeya waayo qofka bini aadamka wuu jiran karaa wuu maqnaan karaa safar baa geli kara geeri baa geli karto markasta ma taagnaan karto waa inaad heshaa 5 liidar ugu yaraan oo kula shaqaysa oo ah dadka tiimka aad keentay inaad kasoo filataa ma aha 2 qof waxaa laga yaabaa 2 qof aad keentay inaysan shaqaynaynin oo aysan fahansaneen ama aysan waqti u haynin dadkii ay sii keeneen inaad la shaqaysid kuwa ay sii keeneen inaad la shaqaysid generationkaasaan kuu sheeg 10 qof ama 20 qof ee kaa dambaysa dadkay keeneen inaad kala soo baxdid liidarka active-ka ah ee shaqaynaya ee gacanta soo taagta waa inaad caawisaa waa inaad ka caawisaa hadday noqon lahayd leadership trainingka adina bixinaysa dabcan liidara ayaa bixinaa maalin kasta oo sabti ah waxaan leenahay leadership training barnaamij la dhaha oo uu qabto liidarkeena sayid dad badanna ay ka faa'iidaysteen ku soo xir liidarkaada soo saar waqtiga u ballami tababarka dhiil sheekar haddaa rabtid sidoo kale nagu soo xir aniga ayaa kamid ah liidarada bixiy tababarka dhiil sheekar training igu soo xir si aan u caawiyo runtii waa uga mahad celinaya dhalinyaro aad u fara badan ayaa barnaamijka dad kusoo xireen midda kale IT-ga marka la dhahaa wuxuu u baahan yahay qofki inuu barto dadkana waa loo kala fircoon yahay barnaamijkan dhiil sheekarka kale wuxuu u baahan yahay qofki inuu barto siduu u geli lahaa waxaan waa teknolojiyad adeeraday dabcan waa dad badan oo odayaal oo maasha allah oo liidara ah maxay ahayd maasha allah aqoon ayaa ku jiro laakiin waxaan leeyahay adeeraday waa inaad keentaan dhalinyaro firfircoon oo barnaamijka fahmi karto haddii aniga aan taagnaado dabcan aniga waxa hooyaan waxaa laga yaabaa inaan caruur dhalo waxaa laga yaabaa inaan mashquul noqdo waa inaan keenaa 5 ilaa 4 ilaa 3 liidar oo ila shaqaysa oo firfircoon oo dhalinyaro oo IT-ga taqaano waxaan leeyahay marka inaad dad wax bartid oo dadkii wixii aad qaban lahayd ay qabato waxay ku fududaynaysaa hawsha adiga aad qaban lahayd
laakiin ma aha in aad tiraahdo okay waxaan aniga aqaana aniga weliga taagnaanay no ma ku anfacayso adiga bulshadaadana ma anfacayso liidarada waxaan leeyahay mas'uuliyad ayaa idin saaran dadka aad keentaan wax baro dadka ay sii keenaan la shaqeeyo qofka shaqeynaya hor u socdana hor u xambaaro waayo aan u dhahaa aniga dad baa xambaaraya waxaan sababtaan u dhahay waxay tahay waxaan rabaa inaan soo saaro dad fircoon oo shaqeynaya barnaamijkan fahmi karo yes aniga waxaa laga yaabaa dhinaca marka la yidhaahdo media inaan ku fiicanahay laakiin dhinaca electronic waxaa laga yaabaa in la iga fiican yahay haddii liidara aan soo saaro ayagaa qabanaya hawsha marka waxaan kula talinayaa liidarada haddii aad tahay qof weyn iyo haddii aad tahay qof yarba mas-uuliyad ee ku saaran dad soo saar kula shaqeyn dadka kale ee shirkadda kusoo biiray iyaga aan weli liidar noqonin memberka ah ee doonaya inay faa'iidaystaan waxaan leeyahay dadka liidarada ah la shaqeey liidarka adiga ku keena hadduu yahay liidar aan shaqaynaynin oo badda daadka uu qaaday dad badan oo daadka qaado dee shirkado kale iska aaday fadlan dadka la xiriir shaqaynayo liidarada shaqaynaya la xiriir oo dheh okay igu xir raadi telefoonada isoo wac aniga liidar ila shaqeeya raba idheh anaan kugu xiraa liidar kula shaqeey maaha haddii liidarkaa daadka uu qaado adiga inuu daadka ku qaado maaha sababto weliga adiga waa soo jeeda maad buu ma hurid kolka qaar markaan ka hadlo dadka way hurdaan markaan idhahdo waa ila yaaban waayo because dadka way hurdaan qofka shirkadda ayuu kusoo biiri backagea loo gaday waxaa looma sheegin wax ma oga isagana ma raadsanayo wuxuu ku leeyahay kaashan raba goormaan kaa shilaya yes waxaa kaa maqan aqoonti waqtigaad kaa shalayso aqoonta ayaa ku barayso tababarada ayaa ku baraya tareeninada ayaa ku baraya waa in adiga member ee shirkaddan ka tahay mas-uuliyadaha ku saaran haddii liidarkaada uu geeyo mas-uuliyadda waa inaad adiga markaa qaadaa digo 18 sanaad ka weyn tahay shirkaddan qof kasta oo 18 sano ka weyn ayaa iska diiwaangelin karo haddii 18 sano aad ka yar tahay marka horeba lagaama ogolaanayo dhalashadaad markaad gelinayso waxaan leeyahay marka mas-uuliyad ayaa idin saaran qof walba waa inuu gartaa mas-uuliyaddiisa dadka cusub marka haddaan usoo laabto waa gacanta saddexaad dadka cusub ee shirkadda weli aan kusoo biirin barnaamijka lagu soo cusubay waxaan leeyahay walaalayaal waqti fiican waqtigii saxda ahayd iyo dadkii saxda ahaa ee aad la jaan qaadi leheedaan ayaa hesheen maanta liidarada sarsare aad arkan sayid cabdi uu kamid yahay waxa uu kasoo bilaabay meel aanu soomaali lahayn luqadda af soomaaliga lagu hadlaynin barnaamij soomaali aan loo qabanaynin webinaar soomaali aanan helaynin video soomaali diyaarsan aan uusan helaynin ayuu kasoo bilaabay isaga inuu raadiyo macluumaadkii english ku raadiyo isaga inuu la xiriiro dadkii ajnabiga ahaa waqti ayay ku qaadanaysaa marka dadka cusub waxaan leeyahay walaalayaal soo dhawaada barnaamijkii saxda ahaa ee mustaqbalkiina aad ku horumarin laheedeen qof walba nolosha adduunka inta uu nool yahay hadaf ayuu leeyahay hadafkaadana wax kasta oo socon karo oo macquul ayaa lagu gaaraa hadafkiina meesha ku gaari laheedeen ayaad maanta haysaan haddii shirkadda one life aad barnaamijkeeda wax uun ka dhegaysateen waxaan leeyahay marka barnaamijkan ka faa'iidaysta haddii aad u aragtaan inuu yahay barnaamijka saxda ahaa sida annaga aan idinkugu sheegayn aad u aragteen baaritaan soo sameeya fideoyo badan ayaa laga diyaariyey gala internetka haddii aad u aragteen inuu idin nafacaaya soo dhawaada liidaradii idinkeenana ku noqda haddii ay idin caawin waayaan nala soo xiriira si aan idin caawino barnaamijkan aad uga faa'iidaystaan maxay tahay sababta fursaddan waa qaalisaan idin sheega waxaan rabnaa inaan soo saarno liidaro soomaali ah milyandheer ah ee kasoo baxa top 10ka wadamada geeska africa gaar ahaan waddanka loo yaqaano 30 sano burbursanaa ee loo yaqaano hala caawiyo tuuqsadayaashii la yidhaahdo wadamada caalamka laga yidhahdo si aan una helno dad aqoon-yahana ganacsato ah lacag leh billions ah oo dadkoodana caawin karo fursadaha waa inaan eegnaa haddaana fursadahaas arkin weligeed ma faa'iidaysanin waxaan idin leeyahay marka walaalayaal soo dhawaada haddii aad u baahataan in lidin caawiyo liidarada lasoo xiriira waxaa jira fideoyo badan oo shirkadda aan ka diyaarinay raadiyo buug iyo qalin qaato su-aalaha aad aragtan soo qoro liidarada lasoo xiriiro insha allah haddii liidarka aad la xiriirto ku caawin waayo ha ka niyad jebin hor u soco next stage u soco liidarka ku xigiraadi hadduu ku caawin waayo liidar ku xigiraadi haddii sayid cabdi aad wacdo uu ku caawin waayo waqti kuu waayo ama uu kuu soo jawaabi waayo aniga ila soo xiriir haddii aniga aan kuu soo jawaabi waayo sharmaarka la xiriir sharmaarka hadduu kuu soo jawaabi waayo la xiriir liidarada kale ee waddanka joogta jooga jibriil la xiriir cabdifataaxa jooga la xiriir liidaro badan aan soo saarnaa jooga liidarada soomaaliya ugu maanta dhinaca soomaaliya jooga cabdullahi dariiqa uu kamid yahay dr yuusuf macaala jooga maasha allah liidarada aad ayay u badan yihiin ee shirkadda kamidka ah ama aan usoo koobi karno si lagu caawiyo marka adiga ha isdhiibin ha niyad jebin waayo waqti ayaad weli haysataa gabdho badan ayaa jiro oo liidaro oo maanta billions coin haysto oo jooga waan ka xumahay in soomaaliya gabdhaha jooga maanta ma haystaan lacag badan laakiin gabdhaha dhaqaalaha badan shirkadda gashada waa gabdhaha banaanka jooga ama ha joogaan waddanka ingiriiska ama dubay ha joogaan waayo maxaa loo waaya gabdhihii soomaaliyeed ee waddanka 30 sano laf dhabarka u ahaa ragga maanta shaqaynaya soo saaray waa gabdho rag waxbay burburin jireen dagaal iyo xabad bay isugu dhiibi jireen laakiin gabdhihii aawe waxaa jooga gabdho billions oo billion dheer ah
maanta aan aqaano qaar badan oo iyaga ka mid ah aan kasoo bilaabo suuqa bakaaraha fadlan gabdhaha waa inay soo galaan waa inay top 10 soo galaan waa inay ogaadaan meesha waxa yaala ma aha haddii wax aadan baranin weligay wax ma baranin yes wax maad baranin laakiin dhegayso ku celcesho dadka su'aalo weydii insha allah waad gaaraysaa waxaan leeyahay walaalayaal waxaa idinkaga tegayaa aniga iyo dhammaan liidarada kale ila shaqeeyo meel kastoo ay joogaan liidarada soomaaliyeed anagoo isku duuban bahda one life waxaana la yidhaahdaa dabcan sidaad ogtihiinba global team of somalia ayaan nahay ee one life waxaana diyaar u nahay dadka hor u socod kale inaan caawino la shaqeyno aqoonta anaga naga maqana iyaga ka raadino aqoonta iyaga ka maqalna anaga aan siino insha allah waxaan idin leeyahay walaalayaal aniga waxaan deganahay norway waqti kastana waad heli kartaan waqti kasta oo aad isoo raaditaan waad heli kartaan sababta igu heli kartaan haddaan shaqo ku jiro ama galaas ku jiro marka aan breega qaato ayaan codka furaa oon dhegeysta kadibna waa kuusoo jawaabaya inta aan gurigeyga joogana telefoonka waa kaa qabanaya insha allah ila soo xiriira wixii caawina diyaar ayaan idinkula ahay waxaan idin leeyahay mar kale walaalayaal waxaan ku kulmi doonaa webinaarada kale sida tababarada caadiga ah ee u ka bilaabanay habeenka arbacada soo socod aan idhaha dee habeenka isniinta ah fiidka waxaan leenahay presentation sidoo kale arbacada waxaan leenahay leadership training sabtiga waxaan leenahay leadership training jimcaha waxaan leenahay leadership training sidoo kale axadana waxaan leenahay presentationka guud waxaan idin leeyahay mar kale aniga asxaabteyda dhammaan idinku duwan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu